subaxnimadii talaadada ee 21 Oktoobar 1969 saacadu markay ahayd 3 aroornimo waqtiga Muqdisho kuna beegnayd 24 saac kadib aaskii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ciidamada militariga iyo kuwa booliiska iskaashanaya waxay qabsadeen dhismayaashii muhiimka ah ee dawladda ee ku yaalay magaalada Muqdisho waxay la wareegeen idaacaddii reediyo Muqdisho iyo jidadka waaweyn ee ka baxa ama laga soo galo magaalada haddaba maxaa soo dadejiyay afgambigan sidee ayaase loo qorsheeyey aynu dib ugu laabanno sanadkii 1967 iyo doorashadii madaxweynenimada Soomaaliya bishii Juulaay 1967 waxaa xilka wareejiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Aadan Cabdulle Cismaan oo uu doorashada kaga adkaaday ra'iisul wasaarihiisii Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxay ahayd taariikhda Afrika markii ugu horeysay ee madaxweyne uu si nabadgelyo leh u wareejiyo xukunka inta doorasho looga adkaaday sida ay qoreen taariikhyahanada Soomaalida waxaa farxadda xil wareejinta nabadgelyada ku dhacday garab socday aafooyin kale oo ay ka mid ahaayeen musuqmaasuq ku shubasho iyo qabyaalad binjaha goynaysay dimuqraadiyaddii curdinka ahayd tusaale ahaan waxaa la sheegay in doorashada ay isku soo taageen ilaa 86 xisbi oo badankooda la sameeyey intii ay doorashadu socotay dhammaantoodna ka soo farcamay saddexdii xisbi ee Somali Youth League, Somali National League iyo Somali National Union Cusmaan Maxamed Jelle waxa uu la shaqaynayay wasiirkii arrimaha gudaha Yaasiin Nuur Bidde oo qaabilsanaa doorashada waxaana uu ku sugnaa taliskii booliiska oo lagala socday doorashada waxa uu iga sheekeeyay musuqmaasuqa doorashada ee uu isagu indhihiisa ku arkay waxaan goobjoogaha waxyaabihii dhacayay oo cabashuurina oo goobaha codbixinta ka imaanayay haddaan tusaalaga kuu soo aado Yaasiin Nuur xasan Allah u naxariistee degmada Jariima lagaa ayuu gaalkaayo ka gooyey si mataqaanaa kursi gooniya loo siiyo waxaa doonay inuu iska garab xisaxo nima alaaba ahaayeen aada xuseen gusaa la dhihi jiray ninkii iyo dadkii u batay intii anay magaalada gaarin ayaa amar lagu siiyey in anay magaalada soo geli karin si kastoo ninkii u dacwooday taad buu noo soo diray waa noo yimid guddigii baa ka fadhiyey haddee wasiirka gudaha ayaa noo ah guddoomiye waana ninka meeshiinu kadib ka soo geli doonayo sababa baad la socotaa in loo digay baydhabo inuu xataa liiskii doorashada gudbiyo laba nimo odagaaloo ka horeeyey oo ahaayeen shuhada jimaal allahu naxariiste oo xisbiga SNC lagaa madaxu ahaa jiray iyo abdeeja xaaji xuseen iyagana waxa ay go'aansadeen inay soo gelin baarlamaanka taasoo kaliftay inay axzaabtooda laba meelood ka kalaxaan abdeeja xaaji xuseen waxaa laga rajaxay galoowe iyo galkaayo haddii meel looga adkaado sidaanu meesha kale u siigin shuhada jimaalada beledweyniga buula burto qodobkan musuqmaasuqa waddanka ka jiray ayaa haddaba noqday kan ugu weyn ee gundhiga u noqday inay isku yimaadaan koox saraakiil militari iyo booliis ah oo ay damcaan inay talada waddanka la wareegaan waxay ahayd arrin ku qancisay saraakiishii inaysan dimuqraadiyad wanaagsan aysan ka jirin dalka sida uu sharaxayo Axmed Suleymaan Cabdalla oo ku magac dheer Axmed Suleymaan Dafle waxa weeyaan horta dimuqraadi kama jirin waxay ahayd fawda waxaanay ahayd qabiil waxa keenay 88 bay ahaayeen sidaan anagu tirada ku ognahay xisbi waxay ahayd 88 qabiil bay ahaayeen nin walba intuu geesiisa isu taagay iyo qabiilkiisii la baxay oo uu doonay inay doortaan waxay noqotay inaynu dib isu eegno sidii aynu baadiyaha berigii hore aynu ku ahaan jiray oo innagii aynu iska horjeesano oo dagaalano waa gartay wax yar iga tilmaan marka dhibaatooyinkii jiray markaad hoos u sii gasho xilliga ka hor intaan militarigu talada la wareegin dhibaatooyinku waa badnaayeen waxa weeyaan horta budgetku wuxuu ahaa 290 milyan buu ahaa wuxuu fund u isticmaalay caynkaas ah oo wax la yiraahdo political fund 54 milyan baladaday oo aan wax allaale waxay dawladu qabteen wax allaale waxay tacliin u qabteen wax allaale waxay meel u qabteen aanay jirin rag uun la siiyey oo isagu siyaasiyan maaragta wax kaga doonayay waa ra'iisul wasaarahaas waa kee waa ra'iisul wasaarihii markaa ugu dambeeyay suguramis gacan horti Maxamed Ibrahim Gaal ministerada qaar bacaankaas ahaa ministerka dakhilka ahaa oo isna fankiisa lahaa oo ama
يعني سباس وحي استعمالي كري سو قرميسي haddaba cidda iska lahayd fikradda hore ee ah in afgembi la sameeyo iyo goorta ay fikraddan dhalatay labaduba aragtiyo kala duwan ayaa laga qabaa umana badna in barnaamijkani xalliyo kala duwanaanshaha fikradeed ee arrintaasi waxaase saraakiisha badankooda ay isku raacsan yihiin in fikradda in isbeddel awoodeed uu ka dhaca soomaaliya ay bilaabantay wax yar uun kadib doorashadii 1967 cabdi warsame isaaq ayaa ii sheegay inuu ku jiray 7 sargaal ee ugu horreysay ay ku dhalato in inqilaab waddanka laga sameeyo saraakiishii uu magacyadooda ii tiriyeyna kuma jirin taliyihii ciidanka xoogga dalka sarreeye gaas maxamed siyaad barre anugu sarkaal baan ahaa marka taliyihii waxaan ahaa gaarishonka oo kismaayo ciidamada kismaayo degan ayaan madax u ahaa sidee baad ku ogaatay in afgembi uu dhacayo ka hor intuusan afgembigu dhicin aniga naftarkayga ayaaba abaabulka maaragtay ku jiray oo sameeyey dhalinyaro oo kooban oo saraakiil ah ee meelaha kala duwan maaragtay joogay ayaa maaragtay isxilqaamay marka waa is abaabulnay annagoo dhowr aniga aan kamid ahay oo kula hadlahay ismaaciil calawkor axmed saleemaan cabdalla maxamed cali shire maxamed cumar jees cusmaan jeelle muxuu ahaa aniga haddee waa ku jira cabdi warsame isaaq aniga bilowgii hore waxaan ilaa 7 maartay maxamed siyaad barre mayd ku jiray odiga xogo markii dambe oo howlaha maartay ay soo yara shacbaxayeen qasab bay ahayd maartay muxuu ahaa annagoo meelo badan fiirinay inaan maartay muxuu ahaa asaga maartay aan la kaashano sababtu waxa way saad ogtahay inqilaab mar maartay wuxuu dhacay 1961kii xasan keyd uu hogaaminayay waqooyi ka dhacay marka inqilaabkaas waa fashalay sababihii uu ku fashalina marka waa tixgelinay sida daraadeen waxaa laga maarmaan ahaa taliyaha xoogga dalka inuu howshaas ku jiro horjoogihii kooxdaasi ka koobnayd 7 sarkaal ismaaciil cali abakar oo haatan ku nool magaalada hargeysa ayaan isku dayay inaan ka xaqiijiyo fikradda cabdi warsame isaaq hase yeeshee waxa uu diiday inuu barnaamijkani ka qayb qaato waxaase uu igu yidhi oon ka soo xiganayaa dadku waxay u qaybsanaayeen kuwa fikradda iska lahaa kuwa abaabulka lahaa iyo kuwo kale oo lagala kaashaday fulinta inqilaabka cusmaan maxamed jeelle oo ka mid ahaa raggaasi 7 ah ee uu xusay cabdi warsame isaaq waxa uu ii sheegay in inkastoo ay xusuusta cabdi warsame isaaq sax tahay haddana aan meesha laga saari karin inuu afgembiga fikirkiisa ku jiray sarreeye gaas maxamed siyaad barre laftiisa ismaanan fiicnayn maxamed siyaad anigu habeen baa marka gaadigiisa ugu waaday wuxuu doonayay habeenkaa bal inaan heshiis gaadno meel ku ogaada mawqifkiga ah in dalka laga sameeyo fican waxaan aadnay ilaa daafeed baanu tagnay waa ka nimid magaalada nimid waa gudubnay balcad baan tagnay waa soo laabanay isbitaalka laasirati markaan egmadayno oo intaa uun dhibaatada jirto oo dalka taagan iga sheekaynayo kuna dhici laayahay inuu wiilaano ilaab samayno ayaa waxaan fuyda taliya caawna waxda lahayd dalkaa sidaan uma eegi karo xalna iimaadan sheegin maxaad xal haysaa waxba kamaabee wuu ka gaabsaday inuu afka ku dhufto aan afgembi samayno anigu ugu soo celiyey 2 jeer de maxay kula tahay anaa marka fu'iyey inaan afgembi samayno ayaa 2 man aad buu intuu farxay xoogaana isyahay geesiya ayuu u yaalay saraakiisha xagga laga keena waadog sabaaba'aan dibutaadkaalkaa bi'iyey dibadda butaadku ku xiran yahay innaga inoo daabaanay saraakiila la keene fikradda adigu maxaad ka cabtaa haddii anigu inkastoo aan weydiinayo isaga udiisuba batay laakiin aniga ii sheekaysnaayo inuu toos ila hadla diidaya saraakiisha kale aan ku waraystay barnaamijyadan badankood wax caad ah kama saarna cidda iska lahayd fikradda ah in inqilaab laga sameeyo dalka waa kan maxamed cali samater oo ku nool gobolkan virginia ee u dhow magaalada washington waxa uu ahaa sargaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga saraakiil kale oon la hadlay dad kale oon la hadlay waxay yidhaahdaan maxamed siyaad barre waxay ku daraan dadkii hawsha fuliyey abaabulka iyo curinta waxa iska lahaa bay dhahaan saraakiil kale 7 sargaal oo ay ku jiraan ismaaciil cali abakar iyo maxamed cali shire iyo raggaas adi xataa kuma jirta waa iska sheeko arrinta ninka odaga ahaabaa iska laha wixii kaloo dhan waa ku taageereen waxaa haddaba fikraddaasi si weyn ugu raacay maxamed cali samater axmed sulaymaan dafle oo isagu ku nool dalka beljamka fikradda
ugu horreysa waxa iska lahaa maxamed siyaad barre isagaa dadkaasoo dhan isu keenay oo qalqaaliyey wuu yeedhay waktigaa 2 sannadood laga joogo waxa weeyaan ismaaciil ninkii ugu horreeyey ee raggayaga ka mida ee uu u yeedhay buu ahaa koow buu ahaa waxaa la soo gaaray 15 Oktoobar 1969 madaxweynihii waddanka Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo booqanaya dhul abaaro ba'an ay ku dhufteen oo ku yaala gobolka Sanaag ayaa lagu dilay magaalada Laascaanood madaxweynaha waxaa dilay mid ka mid ah askartii ilaalinaysay hase yeeshee cidda dilkaasi qaban qaabisay iyo ujeeddada ka dambaysay labaduba waa hurgumo siyaasadeed oo la maarayn kari waayay ilaa maanta dilka madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu fursad weyn u noqday saraakiishii in muddo ahba ku soo taamaysa inay waddanka taladiisa la wareegaan hadafka saraakiisha ee la wareegista taladana waxaa sii kaabay markii 20 bishii Oktoobar saacada uun kadib aaskii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke ay shir degdeg ah yeesheen golihii baarlamaanka balse ay ku guuldaraysteen inay madaxweyne doortaan waxaa la isku mari waayey in madaxweyne loo magacaabo Xaaji Muuse Boqor oo ahaa musharax uu si weyn u taageerayay ra'iisul wasaare Maxamed Ibraahim Cigaal waa kan Axmed Suleymaan Cabdalla oo ka warramaya fikradda ku jirtay maskaxda saraakiisha inqilaabka wadda xilligaasi dilkii way ku baagantay ama ka faa'iidaysa ha noqoto ama wax saxid ha noqoto soo garanaysid wax saxid baanay ahayd maalintii waa la isdili lahaa haddii maxaan ku idhaha Soomaaliya la yidhaahdo waxbaa la dooranayaa baarlamaanka gudihiisa la isku leen lahaa saraakiisha militariga iyo booliiska isugu jirtay waxay go'aansadeen in habeenkaasi ay fuliyaan qorshihii ay muddada sanooyinka ah soo maleegayeen maxamed cali samatar ayaa ka hadlaya xusuustiisii markaasi iyo jawigii ka jiray magaalada Muqdisho kusoo bood ma suuroobayso xukun baa lala wareegaya oo dhibaatadiisa leh oo mushkilada laga hor imaan karo oo khasaare iyo dhiig badan oo daato dhici karo waxaas waktigaas ugu soo aaday waxa weeye xukunkii dalka waxaa dhacday faaruq madaxweynihii waa dhintay madaxweyne cusub lama dooran waxaa habeenkaa loogu aadiyey waxaa waaye berri waxaa dhici karta in la doorto madaxweyne cusub oo markaa ay noqoto madaxweynaha cusub in eed laga galo sidaa aawadeed wakti uu jiro faaruq xukunkii ayaa lagu beegay waxaan joogay taliska xoogga dalka Soomaaliya oo markaas xerada afisyoona ku yeelay waxay ahayd maalintii la soo aasay madaxweynihii dhintay Cabdirashiid Cali Sharmaarke dabadeedna ragganagii arrimahaas ku jiray oo maamulkaas iyo abaabulkaas ku jiray waan iska aragnay waxayna nagula haboonaatay in habeenkaas la fuliyo hawshii qorshaysnayd subaxnimadii hore ee talaadadii 21 Oktoobar saacadu markay ahayd 3 subaxnimo ciidanka iyo booliiska Soomaaliya waxay la wareegeen gacan ku haynta goobaha muhiimka ah sida dhismayaasha dawladda idaacadda Radio Muqdisho jidadka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Cabdi Warsame Isaaq ayaa ii sharaxay sidii ay arrintaasi u dhacday gudoomiyihii markaa baarlamaanka Sheekh Mukhtaar baa maartay siihayaha ahaa madaxweynaha asna wuxuu amray wadanka maartay muxuu ahaa in nabadgelyadiisa la sugo adiga maartay ciidanka markiiba waxaa la geliyay heegan waa la diyaar garoobay in meelaha loo dhiibo rag dhalinyaro oo anaga fikirkeena maartay wata taangiga muxuu ahaa diyaar buu ahaa kulli meel raag la yiraahdo dekada agteeda diyaar bay ahaayeen ciidamada waxa la maartay xalanahaas iyo meesha maxay ahayd hiil weyno ayayna commandersku deganaayo wixii oo dhan diyaar baa lahaa marka nin hadda taariikhdiisa weli ay wax ka dhameeyeen oo salaad gabar la yiraahdo ayaa maartay ahaa abaabulka hogaanka abaabulka joogay aniga ku xigeenkiisaan ahaa waxaan u dirnay maartay jeelle iyo Cusmaan Jeelle hadda ku sheegay taangiga muxuu ahaa gabar iyo group kale iyo kullina ay operationkii maartay ayay kormeerayaan hawsha si u socdeen booliiska waxaa madax u ahaa qorsheel baa madax u ahaa qorsheel maxamed siyaad ay wada socdeen habeenkii oo dhan adiga saacad 9 saac markay tahay loo sheegay waxaa la yiraahday qorsheel ma raacaysa mise waa dhinac kale aadaysa marka waxa yidhi war ma la horsatay meeshii taliska booliiska ahayd iyo meel sarandi oo ciidamada daraawiishta ay deganaayeen iyo waxaas oo dhan la maartay muxuu ahaa waxaa lagu wareejiyey
beebeyaal iyo maaragtay hore baa loo qabtay marka waxaa la yidhi waxaas waa la qabtay howshaas waa dhantaa la yidhi adigaan maaragtay ku wargelinayna keliya howshana sidaasay maaragtay ku dhamaatay axmed sulaymaan dafle ayaan wax ka weydiiyey tallaabooyinkii ugu horreeyay ay ciidanku qaadeen adigu xilkaagu muxuu ahaa markaa jagadaadu maxay ahayd darajadaada anugu darajadeedu mijir bay ahayd gaashaanle waxaan ahaa maxaanku idhahdaa sarkaal ka tirsan headquarterka maxaanku idhahda gaashaandhigga oo qaabilsan wardoonka sirta ma maqashay military intelligence subaxdii markaa kacaan ku dhashay hawsheedu waxay ahayd anugu ninka qura dawladda yaqaanaan ahaa nin dhinacaas ku shaqayn jiray waddanka meel walba kaga jiri karay yaan ahaa ninka dawladda markaa ragga iyagii militariga ugu aqoon badan iyaga iyo meelahay degan yihiin baan ahaa dabadeed ninkii soo xidhxidhay ee iyaga loo diray inuu soo xidhxidho yaan ahaa yaad soo xidhxirtay marka xubno badan oo dawladdaa la xidhxiray kadib dawladdii intii ahayd oo dhan wali waxaa ku jiray kuwa aan markaa dawladda ahayn oo muse boqorya lahaa iyo maxaanku idhahdaa cabdirasaaq iyo aadan cadde iyo lahaa oo dawladihii hore ahaan jiray maxaa loo xidhayana waxaa loo xidhayay maxaanku idhahdaa yaanay kacaanka iyagu maxaanku idhahdaa la dagaalamin waa ragga in xukunkiina dee markaa laga kaxeeyo yaa loo xidhayay waxaanu ku xidhnay guri sharaf leh oo maxaanku idhahdaa madaxweynuhu lahaa oo afgooye ahaa gurigaasaanu ku xidhnay saacaddu markii ay ahayd 6dii subaxnimo waxaa war cad laga akhriyey idaacadda reediyo muqdisho codka ummadda soomaaliyeed waxaana warkaasi cad lagu sheegay in tallaabada ay ciidanku qaadeen loo qaaday si soomaaliya looga badbaadiyo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda ay ku dhaqmayeen dabaqadihii wax xukumayey waxaana dadweynaha loo sheegay in mar dhow uu soo gaari doono war wanaagsan subaxdiiba waddanka si fiican baan u qabanay markii waagu beriyey waddanku gacantayada ku jiray wax dhigiga kuma daadan badan iyo yar midna waxaanu subaxdiiba soo saaray xaashdii koowaad oo siyaasaddii waddanka gudihiisa aanu ku dhaqaynay iyo tii maxaanku idhaha dibadda aanu kula dhaqmaynay intaba ay ku qeexan tahay waa subaxdii 21 October inay wax iska diyaarsanaayeen sida aad ku garanaysaa waa sidaa barqanimadii subaxdaasi 21 October waxaa soo baxay hadalkii labaad ee ciidanka waxaana looga dhawaaqay in dalka uu ka dhashay kacaan gallinkii dambe ee maalintaasi ayaa kulan ay saraakiisha ciidanku ku yeesheen shir kale ofishaale waxaa magaca hogaamiyaha golaha kacaanka ku hadlay maxamed siyaad barre waxaa looga dhawaaqay in la aasaasay golaha sare ee kacaanka oo ka kooban 25 xubnood qabsashada xukunka ee militariga waxay ahayd mid ay dad badan markaasi soo dhoweeyeen sida uu xusuusto mid ka mid a macallimiintii dugsiyada sare ee magaalada muqdisho maxamed faarax jimcaale anugu markii kacaan ku dhashay waxaan shaqaynayay 1 sano iyo 6 bilood aad baa loogu farxay aad baa loo soo dhaweeyey tallaabadii ugu horreeyey oo uu qaaday waxay ahayd niman mutacalimiin oo dhalinyaro oo maamul yaqaana oo wasiiro ah baa markii hore wasaaradihii loo magacaabay runtii waxa weeye nin kasta oo wax bartay waa ku faraxsanaa rajaa gashay cadaalad inay soo socoto buu qalbiga gashay niyeystay waa gartay marka waxaad leedahay lagaba maarmaan buu ahaa kacaanku inuu yimaado ilaa waxay ahayd khasab bay ahayd laga maarmaan buu ahaa ubax baa meel walba rag dumar caruur oday nin walba ubax buu la soo kacay ragii in laga qabto nin walba oo Soomaaliya raalli buu ka ahaa dhibaato yani ay jirtay 9 sano yani wax cadaalad xumo ah oo aan loo adkeysan karin baa dadku maray dadka qaar waxay yiraahdaan dimuqraadiyad curdina oo koreysay ayaa waddanka ka jirtay haddii uusan kacaanku iman lahayn maanta Soomaaliya waddan ka bedelan buu noqon lahaa kan oo hadaya ma run maaha waxa soo socday anarkii baa socday hoos baa loo socday yani xagee bay taasajadu mar haddaan doorashadii aysan ahayn cadaalad ahayn wax la dooran karin mar haddaan qofku inuu aqoontiisa ku talageli karin inuu shaqo raadsado wax rajaahoo soo socda oo runtii maaragtay dhinaca dimuqraadiyadeed iyo dhinac maamul iyo dhinac cadaaladeed iyo meelna wax wanaagi kama soo socon runtii habeen iyo maalin jahraad baa ku jiri jirtay dalalka deriska la ah Soomaaliya iyo beesha caalamka inteeda kaleba gaar ahaan labadii quwadood ee markaasi jiray waa Mareykanka iyo Midowga Sofiyeed si taxadar leh ayay u fiirinayeen isbeddelka dhinaca awoodda ee ka dhacay Soomaaliya dhinaca siyaasadda dibadda golaha sare ee kacaanku si dheer ayay amuurtaasi uga hadleen
warkii caddaa ee ka soo baxayna waxay ku sheegeen inay raaci doonaan siyaasad meeldhexaad ah iyadoo xiriir saaxiibtinimo lala samaysanayo waddamada dunida. golaha sare ee kacaanku waxaa kaloo ay warka cad ay soo saareen ku sheegeen inaysan faragelinayn arrimaha gudaha ee dal kale, balse ay si muuqata u taageeri doonaan halgannada dhaqdhaqaaqa xornimodoonka ah ee ku jira gacmaha gumaysiga. hadalkaasi dambe ee ay soo saareen golaha sare ee kacaanka waxaa nuxurkiisu ahaa in golaha sare ee kacaanku ay yabo toos ah u fidinayaan laba urur oo sheegay inay u dagaalamayeen dhaqdhaqaaqa xoraynta Soomaalida. labadaasi ururna waxay kala ahaayeen WSLF iyo ururkii la oran jiray ololaha xoraynta NFD. hadalkaasi kadibna afhayeenu hadlay dowladda Itoobiya ayaa maalintii xigtay afkambiga sheegay in madax sharaf Itoobiyaan ah oo xilligaasi magaalada Muqdisho u yimid aaska madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo diblomaasiyiin ka joogtay magaalada Muqdishoba inay la soo noqonayso. waxaa isna walaac ka soo yeeray dhinaca dowladda Kenya kaasi oo ku saabsanaa in militarigu aysan ixtiraami doonin heshiis colaad joojin ah oo 1967 ay kala saxeexdeen ra'iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo madaxweynihii hore ee Kenya Jomo Kenyatta. gudoomiyaha golaha sare ee kacaanka ahna madaxweynihii Soomaaliya waxa uu shukaantii siyaasadda Soomaaliya u leexiyey jiho ka duwan tii dowladdii isaga ka horreysay. waxa uu ku dhawaaqay siyaasaddii loogu magac daray hanti wadaagga cilmiga ku dhisan. Soomaaliyana waxa uu ugu yeeray waddan hanti wadaag ah. intaan la gaarin sanad guuradii koowaad ee kacaanka waxaa dalka la keenay boqolaal tababarayaal militari ah iyo xeeldheerayaal Sofiyeed ah. xaruntii ugu weyneed ee wakaaladda sirdoonka ee Sofiyeedka KGB ee qaaradda Afrika waxaa laga dhisay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. si kastaba ha ahaatee si ay militarigu xididdo ugu sii taagaan nidaamka ay la yimaadeen ee hanti wadaagga ah waxay qarameeyeen shirkado iyo mashruucyo dhowr ah oo ay lahaayeen shirkado iyo dalal shisheeye iyo weliba kuwa ay Soomaali leedahay. hantiyaha la qarameeyey waxaa ku jiray bankiyo, xarumo dhaqan, shirkado iyo hay-ado kale oo dhaqaale. dowladdii hanti wadaagga ahayd waxay bilowday inay xirto iskuulladii iyo xarumihii waxbarashada ee ay maamulayeen dadka ajaanibta ah. tallaabadaasina waxay qayb ka ahayd socodka hanaankii lagu hirgelinayay qoraalka farta afka Soomaaliga oo aan hore u qornayn. sannadkii 1972 ayaana markii ugu horreysay taariikhda dalka Soomaaliya la qoray farta afka Soomaaliga. arrintan ayay xubnihii dowladdaasi ku jiray isku raacsan yihiin inay ahayd siyaasaddii ugu taabagalsanayd ee uu sameeyo kacaankii 21 Oktoobar. waa kan Axmed Saleebaan Dafle oo arrintaasi ka hadlaya. kushii ugu weyneeda kacaanku gaaray waxay ahayd af Soomaaliga la qoray 5% bay ahayd. maxaan ku idhaahdaa waxa wax qori kara ee wax akhriyi kara ummadda Soomaaliyeed markii hore af Soomaaliga ka hor. markii af Soomaaliga la qoray ummaddii wax qoraysay ee Soomaaliyeed waxay noqotay 7%. waa sanado yar gudaheed baynu sidaa ku noqonnay oo ku gaadhnay. waxa layna siiyey maxaan ku idhaahdaa prizes baa layna siiyey, World Prizes, UNESCO Prize of Literacy, waxa layna siiyey Shah Prize of Literacy, boqorkii Shah u bixinayay ee Iran. isla sanadkaasi madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa uu Soomaaliya ku daray ururka Jaamacadda Carabta. abaalgudna waxaa looga dhigay taageero badan oo lacag ah. 2 sano kadib 1974 waxaa dowladda Soomaaliya ay martigelisay kalfadhigii 11aad ee dalalka Midowga Afrika. waxaana madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu noqday gudoomiye sanadeedka ururka Midowga Afrika OAU. muddadii uu xilkaasi hayayna 2 waddan oo Afrikaan ah oo kala ah Angola iyo Mozambique ayaa xornimo ka qaatay gumaysigii Boortaqiiska. dowladdii hanti wadaagga ahayd waxay bilowday inay xirto iskuulladii iyo xarumihii waxbarashada ee ay maamulayeen dadka ajaanibta ah. tallaabadaasina waxay qayb ka ahayd socodka hanaankii lagu hirgelinayay qoraalka farta afka Soomaaliga oo aan hore u qornayn.
sannadkii 1972 ayaana markii ugu horraysay taariikhda dalka Soomaaliya la qoray farta afka Soomaaliga. arrintan ayay xubnihii dawladdaasi ku jiray isku raacsan yihiin inay ahayd siyaasaddii ugu taabagalsanayd ee uu sameeyo kacaankii 21 Oktoobar. laakiin xukumayaasha kacaanka wax kasta sidii ay filayeen uguma dhicin, waxaana ka hor yimid markiiba caqabado aad u waaweyn. waa marka hore waxaa soo ifbaxday in tuhun soo kala dhex galay saraakiishii afgembiga ka dambaysay qaarkood. saraakiisha qaarkood ayaa taageersanaa inqilaabka, laakiin waxay diidanaayeen in sarreeyagaas Maxamed Siyaad Barre uu noqdo hogaamiyaha dalka. saraakiishaasina waxaa ka mid ahaa taliyihii hoggaanka abaabulka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Salaad Gabayre Kediye, oo si weyn uga dhex muuqday saraakiisha, taageerayaal badanna lahaa. waxaa iyaguna jiray saraakiil kale oo aysan caddayn inay ku xirnaayeen Salaad Gabayre, balse iyaguna sidooda u diidanaa Maxamed Siyaad Barre. waxaana saraakiishaasi ka mid ahaa Cabdulaahi Yuusuf Axmed iyo Maxamed Faarax Caydiid. waxaa la sheegay in labadoodaba jagooyin diblomaasiyadeed laga siiyey dalalka Tanzaniya iyo Suudaan. markii ay diideenna waxaa durbadiiba loo diray xabsiga. Dr. Xasan Cali Mire waxa uu ka mid ahaa xoghayayaashii ugu horreeyey ee uu magacaabay kacaanku, balse isaga iyo laba kale ay wax yar kadib magacaabistooda iska casileen, iyagoo taasi u aaneeyey kala fikir duwanaansho in dalka loo sameeyo dastuur. anigu markaas run ahaan waxay ahayd militarigana wax kama aqoon oo dibaddan ka imid. anigu 62 baan America ka tegey oo ka Soomaaliya tegey. marka Cabdullaahi iyo Caydiid baa xoogaa la dareemay oo Maxamed Siyaad Barre dareemay inay hunu ka dhaxayso. labadaana la tuhmayay reer muduga. labadii wuxuu ka dhigay aqalka inay ka bixin markuu qabtay. 5 nin oo ministerada markuu naga dhigay baan u tagnay isaga. war hadeer aan ugu furfurin yani military waqtiga magaalada inta leeg lagu diro nimanka xalgiisida guriga leedahay ka bixin meeshan iyo kan iyo nagama maqal. dabadeedna hadee sidii baa lagu kala tegay. Caydiid Allah naxariista aqalkaygu igu yimid isagoo nin la socda oo wala kugu mahadnaqayaa inaad xalay la hadasheen Maxamed Siyaad Barre. anuu keligay ma ahayn baan waa u sheegay, laakiin hadee heshiiskii waa adiga idinkana waa idin leenahay inaad dagaal iyo rabshad iyo inaan dhexgelin. haddaba madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa uu u arkayay in halista weyn ay ka imanayso dhinaca Generaal Salaad Gabayre. Cabdi Warsame Isaaq ayaa xusuusta khilaafkii jiray sida uu kacaanku u arkayay xilligaasi. Salaad Gabayre waxa tiri taariikhdiisa waxba ka dhiman, maxaad u tiri hadalkaas? waxaan u yiri waxa weeye grouping ayaa maartay ka yari jiray jeeshka dhexdiisa. marka nimanka waxay ahaayeen nimankii markii Maxamed Siyaad iyo darajada laga reebo ragga ugu darajo waaweyn bay ahaayeen. xoogana waa isbadaayeen saraakiil oo yara darajo hoose ayay noo arkayeen. guddi bay sameeyeen. guddiga markay sameeyeen guddiga waxaa madax u ah Cabdulaahi Yuusuf iyo Caydiid ayaa madax u ahaa. Gabayre wuu diiday wuxuu yidhi Cabdulaahigaas bal ha joogo, laakiin anigu Caydiid ma ogolay. guddigaas marka muxuu ahaa? guddi oo ayaga ay samaysteen saraakiishan sare kolonelayaasha ayaga ay samaysteen oo qaabka ayagana abaabulka dhinac kale oo la garab socdaa jiri. marka guddigoodii buu ka soo carooday, sidaasoo annaga noo soo biiray markiiba maartay. bartamihii 1971 dawladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa ay qabqabatay saraakiil dhowr ah oo ku jiray Generaal Salaad Gabayre Kediye oo ay ku tuhuntay inay ka dambeeyeen inqilaab. sannad kadibna bishii Juun 1972 dawladda militariga ahayd waxay daldashay 2 xubnood oo ka tirsanaa golihii sare ee kacaanka, kuwaasi oo kala ahaa Generaal Salaad Gabayre Kediye iyo Generaal Maxamed Caynaanshe Guuleed iyo sargaal saddexaad oo lagu magacaabo Korneyl Cabdulqaadir Dheel. Generaal Salaad Gabayre waxaa si weyn loogu eedeeyey inuu inqilaab abaabulayay. Cabdi Warsame Isaaq ayaa iiga sheekeeyey wixii dhacay. Salaad Gabayre, Maxamed Caynaanshe Guuleed iyo Cabdulqaadir Maxamed Guuleed Dheel saddexdoodaba waa la dilay. siduu ku yimid dilkaasi? wallahi kulay hay'adihii oo nabadgelyada markaas already maartay muxuu ahaa nidaam baa dhashay, dawlad baa jirtay, qolooyinkii security iyo wixii oo dhan baa maartay muxuu ahaa yani howlahooda maartay muxuu ahaa ayaa shaqaynayay. marka aniga horta waxaa iiga xog ogaal fiican security-da qoladii madaxda ahayd Axmed Khan ayaa madax u ahaa, Axmed Salaam. laakiin waxa weeye hadee Salaad inqilaab buu waday. waa gartay. marka raggan kalena way la wadeen inqilaab buu waday. muxuu ahaa Cabdulqaadirna dadka oo
kacandiidka ahaa oo berigii maaragtay ka hor xataa ay odayga islalaayeen ayuu kamid ahaa. waa gartay caynaanshana meel uma hayo aniga. waa gartay aniga odaygaas maaragtay muxuu ahaa caynaansho la yidhaahdo maalin uu meesha ka hadliyo oo meesha golaha uu yidhi maaragtay muxuu ahaa meesha waxaa qabtay maaragtay xoogga dalkaa qabtay anna waxaan nahay ku-xigeenkii xoogga janan baan nahay marka boliis inuu maaragtay way qorsheel baa maaragtay muxuu ahaa ku-xigeenka koowaad ahaa wasiirka arrimaha gudaha laga dhigay marka xoogoo meelahaas ayaad moodaysay inuu yaro diidanaa haddaan wax uun maaragtay aan ka yidhaahdo wax kale wallahi aniga caynaashan wax badan kama sheegi karo. cusmaan maxamed jeelle oo ii sheegay inay si aadah saaxiib u ahaayeen salaad gabayre ayaa qiray in generaalku uu qabanqaabinayo inqilaab waxaase uu ku adkaystay in la daandaansaday laguna qasbay inuu mowqifkaasi fog qaato waxaa kaloo ii sheegay in laga baaqsan karay dilka saraakiishaasi. wallaahi ma wada aha sida mataqaana lagu wada eedeeyey jaamacada oodkeed wax dhibaataa inuu waday ma abo cabdulaadir dheelna maba ahayn golaha maxamed caynaanshe isaga nafsadiisa wax abaabula ma gelin salaad gabayre allah dhammaantood u naxariistay waa jirtay inuu abaabul galay laakiin isweydiintu waxa weeye maxaa ku kallifay salaad waa lagu kallifay waana lagu riixay maalinta la amanayey habeenkii ka horeeyey aniga asagoo islaanay hoteelka la yiraa kadoolka deelsuud baan ka cafeynay maxamed siyaadna waa ogaayay nabadsuudana waana daba sootay markii dacwadiisa ii sheegtay aad baan runtii uga xumaaday maxaa yeelay isaga oo ah nin janana oo ah golihii sare oo wasiirad ah oo xaaskiisii wato oo galabtii magaalada ka baxay oo afgooye meelahaas soo wareegay ayaa kontaroolka afgooye askari ku joogisay ma bixi karti waan yaabay buu yidhaahda maxaa dhacay maamad baa dabtiin ha samaytaanin ha hataa janaalkaagaba taliga waana salaamayaan inkana walada weeye walad baa taal u saxiixan yahay nin aduu markaa golaha ka mid ahaa aan doonay inaan hadda waxba sheego yaab baa alla u keenay uu soo laabtay waxaan hadday sidaasi jirto golaha keen dacwadaana wuxuu ahaa marka nin aada iyo aad geesi u ah geesinimo gaato ilaa nacasnimo wuxuu waxba mataqaanaa ka dacwoomahayo hebel iyo hebel waxan hadageel ma aha meeshii adna waxbaa lagaa sheegi ismana daato aysid intay ku oreysana xoogaa joogjogeyn fara badan baa jirtay walagii aadan cabdulle xiriirdiisii waxay ka mid ah joogjogeynta siyaasid kuma jirin nin hadda dhibaato wadana ma ahayn hadiga gelinta dacaayad baa laga feliya laleeyahay gabadhii aadan cabdulle maadaama u habay salaad gabadhaa dabaday ka wado nin naaga wado iyo dibi u wadaaho kaama joogsadaan baa layidhi waxyaabaha la sheegiya waxa weeye xataa ninba ma ahayninagti naasadaadu bay tidhaahdaa habayba dhaantide haddaa nin tahay aabay lama xidhiirina anigu inantii baan nafsadeedi weydiinaa maxaa kuu kalifay faadumoy way ka dhaalatay macluulna ma aha marka saykoloojiyan in laga dhaadhiyo golihii inuu ninkii nin dhibaato soo wada yahay ayaa jirtay markaa isagu waa abay waana abaabulay muxuu ahaa cilaab dabweeye laakiin hadda waa lagu kalifay waana laga kaaftoomi karay dilkane ma ahayn tala fiican in la xiyo unbaa habooneed 1971 kadib markii la qabtay jenaraal salaad gabayre kediye ayaa wasiirka gaashaandhigga loo magacaabay maxamed cali samatar raggii la qabtay dembiga galay markaa la xukumay maxkamad la geeyey ku caddaaday dembigii lagu marag furay dabadeedna sharciga siduu dhigayay la mariyey wax ay keeneen oo arrintaas ay keentay oo dib u dhac iyo weakness ah midna ma jirin saraakiisha ku wada jiray golaha sare ee kacaanka waxay ku kala aragti duwanaayeen in xubnaha la daldalay ay dhammaantood inqilaab ku jireen axmed sulaymaan cabdalle waxa uu markaasi ahaa madaxii hay-adda nabad sugidda waxa weeyaan way ka hor yimaadeen waxaanay dooneen inay inqilaab nagu sameeyaan pure dabadeedna waa la xidhxidhay intaanay iyagii samayn inqilaabkii ee annaga aanay amana xidhxidhin amana layn yaanu iyagii xidhxidhnay markaa adu door intee leeg baad ka ciyaartay xidhxidhidda
nabadda ninka suga yaan ahaa. waa gartay. yaa ogaan kara markaa iyaga iyo waxay ku jiraan shaqadeeday ka mid ahay. marka maxaad ku hesha haddaad wax iiga sheegi karto? waxaan ku helay wixii maxkamadda lagu soo taagay. maxkamad baa la soo taagay, maxkamaddana waa lagu caddeeyey dembigoodii, dabadeedna waa kii lagu xukumay. dilka saraakiishaasi kadib dowladdii kacaanku waxay mar kale lugaha la gashay caqabado hor leh oo soo food saaray. 1973 dowladda madaxweyne maxamed siyaad barre waxay soo saartay xeerkii lagu magacaabay xeerka qoyska oo u oggolaanaya haweenka inay la sinmaan ragga xagga xuquuqda dhaxalka. arrintani waxay ka mid ahayd gafafka ugu waaweyn ee golaha sare ee kacaanku uu sameeyey, waayo tallaabadaasi waxay gebi ahaanba liddi ku ahayd aayado qur'aanka kariimka ah, waxayna xubnihii ku jiray dowladdaasi ay isku wada raacsan yihiin inuu ahaa qaladkii ugu weynaa abid ee ay gasho dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre. waxaana ololihii arrintaasi lagu diiday hormood ka noqday culimmada diinta islaamka, kuwaasi oo markii ay si cad uga hor yimaadeen xadgudubkaasi lagula kacay diinta islaamka la qabqabtay. sababta ay haddaba culimmadu uga hor yimaadeen waxay ahayd xeerkaasi oo ka hor imanayey aayado qur'aanka kariimka ah. aayadahaasi kuwaay ahaayeen waxaa sharaxaad ka bixiyey muftiga weyn ee Soomaaliyeed Sheekh Cumar Faaruq. xeerka wuxuu qeexayay in ragga iyo haweenku isku mid yihiin, ayaduna waxay qeexaysay inayn isku mid ahayn. ayadaha markaa inaan ragga iyo haweenka sinayn sheegaya waa badan yihiinoo walaysa dakaru kal unsaa baa ka mid a. walaysa dakaru kal unsaa macnaheedu yahay axadka labka dhadig lamid maaha. waxaa ka mid a ayada suuratu nisaa ada asusta adiga oo macnaheedu yahay lidakari mithlu xawdil unsayeyn, lidakari mithlu xawdil unsayeyn, oo macnaheedu yahay axadka lab oo ragga ah wuxuu leeyahay laba dhadig dheeftood, oo macnaha waxaa isku dhaxala laba dumara iyo hal wiila. ayadahaas bay ahaayeen waxa la isaga hor yimid. qoladan kacaankana saqajaa waxaasoo dhan bay u arkayeen waxaan fiicnay oo saqajaana. marka ninkii waddanka xilligaa haystay hadalladan ka xusa maalinka uu ku hadlay waxaa kamid ah, wuxuu yidhi wax kaleba iska daayo naanaysta xataa loo kala yaqaano dig iyo laboodka lama kala bedeli karo. haddii ninka la yidhaahdo jaalle hadalkiisii wey waa qoran yahay waana duuban yahay. haddii ninka la yidhaahdo jaalle gabadhana la yidhaahdo jaalley yeeli mayna wey. ninkuna waa jaalle gabadhana waa jaalle wuxuna wada jaalle. kolka wax bala wadatuu ahaa. kolka aragti fog oo aan ummadda Soomaali xiriir iyo qaraabo lahayn oo gaalo ka soo jeeday baa dalka la keenay in lagu dabaqana la damcay, qarankuna diiday jumlatan wa tafsiila. sidaasaa wixii dhacay ku dhaceen oo nin hadeerba boqortooyada joogo aanan weli geeridiisa maqaloo janan ahaayo qoladan loo yaqaan guulwadayaasha ahaayo la dhihi jiray cabdiwahaab makaahil baa ku jiray dadkii aan odaga laga celiyay intuu tagu gundaha iyo lugaha qabsaday. odaga oo uu yidhi balaa karaysa hog iyo ba'baa foolanayo, suuqii baan ka imid, cirkaasaa ummaddu maraysa, dhibaataa maanta dhacaysa adaana baajin karee waxaad yeeli wadaadadii aad masaajidka ka qabatay siida. idaacadana haddaba u yeedho inaad wadaadadii sii daysay iclaani u sheeg ummadda, siina daa wadaadada, beledana dami, hadhowna si xigmaa wax u maamul. wuxuu ku yidhi bilxarfil waaxid way cabsadeen nala odhan maayo. axmed sulaymaan dafle ayaa ka warramaya sida uu xeerkaasi ku yimid. culimmadu waa kacday. runtii culimmadu waxay ka kacday sinaantii haweenka iyo ragga. raggii iyo haweenka markii la yidhi waa la sinan, waa sinan yihiin. qodob qalad nooga dhacayna waa ku jiray meesha runtii. keebuha waxa weeyaan qodobkii oo ahaa dhaxalka wiilka iyo gabadha walaali way u siman yihiin. markaanu nidhi qodob qalad nooga dhacay buu ahaa, waayo qur-aanka waxaa ku qoran wiilku wuxuu leeyahay gabadha labanlaabkeed. qur-aankii inaan ka hortagna ma ahayn. marka maxaa ugu qorteen? waxaanu ugu qoranay waa iska jibaysnaynoo de waxaanu nidhi maxaanku idhahdaa ragga iyo dumarka sima, waayo dumarkaa runtii Soomaali haddaynu nahay raggeenna dumarkaa ka fiican. maantaba way muuqataa. waxa maanta reeraha masruufa waa dumar, 90% wax waa bixiya waa dumar. kacaankayagii wuxuu diskabargareeyey inay dumarku ragga ka fiican yihiin. dumarka Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed inay ka fiican yihiin yuu diskabargareeyey. markii bulshadii aanu kicinay ee aanu hanuuninay aanu nidha aynu shaqaysano ee shaqo loo dhaqaaqay dumarkii inay ka fiican yihiin, markaasaanu dumarku ragga waa la siman yihiin. markaasaa wadaadadii nagu kicin.
cusmaan maxamed jeelle waxa uu iga sheekeeyey in madaxweyne maxamed siyaad barre uu uga digay xeerkaasi balse taladiisa la dhagaysan waayey. dadweyne waxa uu doonayo inaad samayso ayaa habboon. wax badan baan kala hadlay saaxiibkay maxamed siyaad allahu naxariiso. waxaan idhi xoolo badan oo hadda la dhexlaa Soomaaliya magaaladiina dhibaato aan u abno hadda ma taqaana baahi aan u abnana ma jirta. dhibaatada ay Kenya ka badan haddii diin ahaan aanan yeelaynin alalaal danteena dowlad ahaan ma aha arrintan aleego ilaahay dadka abuura ayaa og. waxa ayadu ku dhamaanaysaa qofkii diido xuduudka ilaahay soohdin buu dhigay. soohdintaan ninkii ka gudbo dhibaatuu la kulmayaa. waxa weeye fallaad howli meeshaas waa inoo dhacday. inkastuu anigu ilaahay mahadii ka mid ahayn intii ogolaatay ama goobjoog aan ahayn oo dibadda ku maqnaay haddana dhibaatadeedu aniga ii badneed oo degdeg soo gelinta layiri wafdi laygu dheelayay ka soo dhaadhicin. bal caalamaha iyo dalalka muslimka wax laga dhaadhici karo anay ahayn. waa xusuustaa intii laga duulaya waxaan la aaday ciddii go-aamisay ayaa ay gas tahay inay ayadu usoo sheegto dadka ka xanaagsan. waan xusuustaa in saaxiibkay ahayo ama haddaan tilmaamaba axmed sulaymaan oo saxaabadeyda ka mid ahaa ayaa ku cadfays wuxuu waxaan cismaan ahayn inaga bixinaya amaanta ma jiraan. weli waan xusuustaa maana isagood u xusuusay haddii kale ilow inuu tagaa markaan xoogaa diiday axmed siyaad inuu soo dhaco labaad. 1975 waxaa mucaaradada ay kala hor yimaadeen xeerkaasi qoyska fagaare loogu toogtay 10 ka tirsan culimmada Soomaaliyeed oo ka mid ahaa culimmadii la qabqabtay. Sheekh Cumar Faaruq oo ay yaqaaneen culimmada la laayay qaarkood ayaa nooga warramay sidii ay wax u dhaceen. xalkii markaa wuxuu noqday odaga amar buu bixiyey xilligaa waddanka haystay. amarna wuxuu ku bixiyey wixii ka hor yimaadaa go-aanka dowladda in laga faraxasho laga takhaluso uu amar ku bixiyey. markaa sheekh ibraahim zuule iyo dhowr sheekh ayaa la xidhxidhay. masaajidii baa laga khudbeeyey oo xamaasaa lagu khudbeeyey oo waxaa kacday gadood ama dareen heer sare ah. culammadu rag culamo ah oo ana waa ku jireen oo shaksiyan u aqiin. rag wadkood galayna waa ku jiray oo maalinkaas ka dhintay. culammada marka caanka ee aan aqiinay waxaa kamid a 2 nin ragga haddaan xusi karo oo caalimiin aha oo ku darsaday cilmiga zuhdi waxaa la yidhaahdaa wadaadada aan sidaydoo kale naaga hadanaynin oo caruurta iyo waxa iyo aan lahayn. marka 2 zaahid bay ahaayeen. kitaabkaanu wada akhrisan jiray. sheekh ibraahim zuule baa noo akhrin jiray kitaabka xadiis buu waa riyaad saalixiin saydkaasi gaale. gadoodka markuu dhacay sheekyaha dhintay oo shaksiyan u aqiinay mid wuu hadlay hadal yar oo kooban buu yidhi oo macruuf oo dee la yaqaan warkii haddaba waa duuban yahay. wuxuu yidhi ruus iyo soomaali wax ka dhexeeya ama kulmiya ma jiraan. ruus waa gaaluu yidhi, soomaalina waa muslim buu yidhi. ruus waa caddaan buu yidhi, soomaalina waa madow buu yidhi. yurub weeyi ruus, soomaali africa weeyi buu yidhi. wax ruus iyo soomaali kulmiya ma jiraan buu yidhi. dadka markaa naga daba wada buu yidhi oo iyadoo aan diin iyo degmo iyo dadnimo iyo midab iyo mabda waxna kulmiya ruus uusan jirin dadka nagu khasbaayeen naga dawada ilaahay naga qabto. nabad sugidii wixii baa joogto beledu waa foolanaysa. sheekh intaasu yidhi dhabbaa la yidhi. sheekh kale isaguna sidaasoo kale ayuu xamaasa muujiyey. 2dii sheekh waa la qabtay. culamo badan oo gadoodayna waa la qabtay. sidaasaa wixii dhintay ay ku dhinteen. maadaama waxoogaa laga soo wareegay inkastoo raggii aqiin sheekh axmed iimaan la odhan jiray wasaaradda waxbarashada ah raggii maalinkaa dhintay buu ku jiray. sheekh axmed iimaan baa la odhan jiray. dilka culimmadan iyo kii loo geystay xubnihii kale ee ka tirsanaa golaha sare ee kacaanka waxaa raadreebkoodu noqday in culimo, siyaasiyiin, aqoon-yahano iyo dad caadi ahba ay bilaabaan diyaargarowga mucaaradnimo lagala hortago maamulka madaxweyne maxamed siyaad barre. maxamed siyaad barre waxa uu ka fikirayey tallaabada uu kaga hortegi lahaa mucaaradnimo lagala hor yimaado iyo sidii uu mar kale dadka isku dhinac ugu jeedin lahaa. 1976 ayuu soo bandhigay hindise cusub oo ku talinaya in la dhiso xisbi talada haya oo lagu magacaabo xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaaliyeed. isla sanadkaasi ayaana qodobkaasi la meel mariyey waxaana lagu dhawaaqay dhismaha xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaaliyeed.
loomana adkaysan in wax xisbi ah oo mucaarad ah uu ka garab dhasho samaynta xisbiga lafteeda ayaa la sheegayaa haddaba inay caqabad hor leh ku noqotay kacaankii waxaa la sheegay inay horseeday in awooddii kacaanka iyo xukunka waddanka ay baahdo siyaabaha ay haddaba caqabad ugu noqotay dowladdaasna waxaa sharaxaya maxamed faarax jimcaale dhaawaca labaadoo weyn oo khatarta ah wuxuu xisbigii abuuritaanka xisbigu ahaa jaamacadaha dood baa ka fufray ninkastoo mutacalima waa doodi jiray aaraada waa la isdhaafan jiray kacaanku naftiisu doodahaas waxbuu ka qaadan jiray arrinta waxay shaqaystay markii xisbigii la sameeyey ana waxaan garanayaa markii la sameeyey banaadir secondary school baan waxaan ka ahaa maamule 3 macalin oo jaamiciyiina baa ila shaqeynaysa iyo macalimiin raasha waxaan xusuustaa xisbigii waxaa lagu soo daray 2 dumara oo dhulka xaqla hal qof oo macalimiintii iyo raggii meesha joogay iyo dadkii waxgaradka ahaa waa laga reebay waxaa dhacday marka meeshii meel xiran bay noqotay ururka haweenka ururka iskaashatada ururka dhalinyarada ururka kan yani meel xiran oo weliba dadkii eliidka ahaa oo looma aqoon dadka maaragtay maskaxda furan oo dooda waxaa loo bixiyey kacaandiid baa loo bixiyey dad wada baari ah oo masaakiin ah oo dood badan iyo dhibaato badan baanu isla galnay ragga xisbiga ahaa waa gartay marka siyaasadda guud ee waddanka sideeba wax ugu dhintay abuuritaanka xisbigu waxay ugu dhintay yacni maskaxdii dadka mutacalimiinta oo waxgaradka oo maskaxdoodii baa xirantay oo waxa la contribution meesha ka bixin lahayd bay weyday oo meesha shirarka laga qaban jiray ay afkaartooda ku muujin jireen oo looga faa'iideysan lahaa baa xirantay meel walba waxay noqotay guri yar oo koox u xiran urur magac leh u xiran ilaa heer raggii wasiirada qaar geli waayaan xisbiga soo geli waayaan ilaa qaar loo bixiyo wasiiradii dowladda kacandiid loo bixiyo bal iska dhaaf nin banaanka jooga intaagta waa lehe kii ku dhex jiray magacyo loo kala bixiyo marka waxaa xirmay wax banaanka contribution uga yimaada caaraac uga timaada aqoon uga timaada dowladdii iyo xisbigii baa yaraatay xubnaha golaha sare ee kacaanka ee ay xisbiyiintu bedeleen ayaa sidoo kale muujiyay inaysan ku qanacsanayn aasaaskii xisbiga xisbiga abuurima horta golaha sare 1976 ayaan xilka wareejinay kowda luulyo waa gartay waxaa wareejiyey golihii sare kacaanka ayaa wareejiyey xisbiga hantiwadaha kacaanka soomaaliyeed ayaa lagu wareejiyey ayaa dhashay annaga markaan runta kuu sheegay xil toos ah oo annaga aan leenahay golaha sare waktigaas ayaa nooga dambeysay qola annaga naga mida maartay muxuu ahaday xisbigii iyo hooshii ayay galeen sida bulid burow iyo wax lamid ah odayga iyo samatar iyo ismaaciil cali bakor iyo axmed saleemaan iyo xuseen kulmiye iyo adugu dadkaas shan aan dhihi jir shantay soomaalida u garanaysaay waa gartay qolo kale oo ambition miiran oo xisbiga dhexdiisa ka soo baxay ayaa iyagana jiriyo waxa la yiraahdo maartay golo sare iyo maartay aad maartay muxuu ahaa u neceb oo aan u jecleen oo iyagana waxay wataan aan la garanayno hanti wadaag iyo waxyaabahaas iyo loo ordayay ayagana maartay dhibkooda ayay la yimaadeen marka adiga markaan isku soo duubo xisbiga dhibaato maartay ayuu la yimid axmed sulaymaan dafle ayaa ka hadlaya abuuritaankii xisbiga hantiwadaaga kacaanka soomaaliyeed wax yar haddaan dib ugu laabto dad ragga aan la hadlay qaarkoodna waxay igu dhaheen xisbiga hantiwadaaga kacaanka soomaaliyeed markii la aasaasay bishii Juulaay 1976 caqabado cusub baa naga hor yimid bay dhaheen markii hore waxaan ahayn koox isku duuban maxaan ku idhaahdaa nin walba dhowr xil hayo la isxilqaamayo xisbigii markuu yimid taladii way ballaaratay dhaheen dhibaatooyinkiina way bateen arrintaa ka waran waa run taladii way ballaaratay raggayagii hore waxaanu ahayn rag is yaqaana rag isku background dhow rag soo wada koray yaanu ahayn raggayagii militariga ahaa iyo raggii maxaan ku dhahaa civiliankee markii hore aanu dooranay ya laakiin markii ay noqotay maxaan ku idhahdaa jantar rogan ummadii oo dhan maaragtay la dhaqaajiyey dabcan xisbiga ummadii oo dhan buu noqday nin waliba markaa waa ku jiray dadku isku wada fikrad ma ahayn isku wada background ma ahayn isku wada cilmi ma ahayn isku wada aqoon ma ahayn soo garanaysid marka waxay noqotay in daldalool badani ka soo baxo
mar kale ayaa hogaamiyaha kacaanka jenaraal maxamed siyaad barre uu isku dayay inuu dib ugu laabto mid ka mid ah hadafyadii kacaanka, taasi oo ahayd in la raadiyo dhulalka ay dowladdaasi aaminsanayd inay ka maqan yihiin Soomaaliya. Maxamed Cali Samatar ayaan weydiiyey waxa ay ku doorteen inay dagaal galaan. bal horta dagaalka Ethiopia iyo annagana dhex maray mar dambe uu yimi annaga markii hore dagaal umana soconin mana ku duulin waxaa dhacay gobonnimo doonaa jiray oo kacaanka ka hor dhisnaa oo jiray. gobonnimo doonadii ayaa markaa xoogaystay oo la abaabulay oo gacan la siiyey. gobonnimo doonadii ayaa dagaal galay oo ku qaaday, marka dagaalkiisu u socday markaa ciidan kale inuu soo galay noqotay. bishu waa November, sanadku waa 1976. madaxweynaha Soomaaliya ayaa saxeexay go'aankii lagu amriyay ciidanka qaranka inay xoog ku soo celiyaan mid ka mid ah 3 gobol ee kacaanku sheegay inay Soomaaliya ka maqan yihiin. Cabdi Warsame Isaaq ayaa ii sheegay in duulaanka ay qaaday Soomaaliya uusan ahayn fikrad habeen kaliya ku dhalatay golihii sare ee kacaanka. annaga fikirka dagaalka wuxuu salka ku hayay Soomaali weyn buu maartay gacanta ku hayay. wax annaga maartay aan iska maagnay oo dagaalkaas in la galo maartay ma ahayn. fikirka kaas waxa midkaasna wuxuu ahaa kii oo leegadii iyo SNL xagga maartay muxuu ahaa waqooyi wixii hadiyaashi waxay ku salgameen oo maartay muxuu ahaa wadanka lagu xoreeyay labaday isku darsantay intii kala hartay in la dhameystiro ayay maartay muxuu ahaa annaga fikirkeena u ahaa. si ayadana haddii waxa yeelatay cadow badan baa yeelatay. xilligaasi ay dowladda Soomaaliya weerartay dowladda Itoobiya waxa uu dalkaasi ku jiraa wax ka yar sanad gacanta xukumayaasha cusub ee militariga ee uu hogaamiyo Mengistu Haile Mariam, waxaana wadankaasi looga dhawaaqay hanti wadaag. sidaasi awgeedna waxaa xubnaha xulufada hanti wadaaga oo horkacaya midowga Sofiyeeti ay u arkayeen in tallaabada ay Soomaaliya qaaday ay wiiqayso fiditaankii hanti wadaaga ee qaaradda Afrika. dowladda midowga Sofiyeeti waxa ay fartay Soomaaliya inaysan weerarin ciidamada Itoobiya, waayo fiditaanka hanti wadaaga ayaa uga muhiimsanaa dowladda midowga Sofiyeeti raadinta midnimo Soomaaliyeed. bilowgii sanadkii 1977 waxay Soomaaliya taageero la'aanta Sofiyeetka kaga jawaabtay si culus, iyadoo soo saartay amar ah in khubarada militariga iyo diblomaasiyiinta Sofiyeetka ay muddo 48 saacadood gudahooda kaga baxaan Soomaaliya. Cabdi Warsame Isaaq ayaa iiga warramay mowqifkii dowladda Sofiyeetka ay ka taagnayd Soomaaliya iyo Itoobiya. qalad kale ay la sameeyay waxa uu ahaa baa la yidhi in ruushka laga saaro Soomaaliya oo xiriirkii gaashaanbuurtana laga goosto. arrintaas waxay u baahan tahay xogo gadaal in loo noqdo u baahan tahay. ruushka anigu waxaan ku jiray wafdi oo odiga hogaaminay Moscow, waxaan ka qayb galnay shirkii oo xisbiga shuuciga oo Soviet ayaan ka qayb galnay. adiga meesha dee wixii raggii waaweynaa oo Fidel Castro iyo wixii lamada iyo Saako iyo adigu rag waaweyn maartay ayaa meesha yimid. annagana maartay inaanan ka yareen ayaanba maartay iska wadnay. marka Brezhnev baa secretary generalka xisbiga ahaa. marka waxaan isku daynay inaan aragno oo la kulano. waa noo suurtoobi weysay si kastaba haddaan yeelnay, waa noo suurtoobi weysay. markii dambe waxaan arkay Podgorny oo madaxweyne ahaa. sheekadii meesha ka soo baxday wuxuu ahaa Podgorny uu yidhi, aniga goobjoog baa ahaa, wuxuu yidhi taariikhda lama sheegin military hanti wadaag dhisa. marka sidaa daraaddeed idinka muslimaad tihiin. marka meesha oo maartay hanti wadaagga runta uu ka soo baxay waa Ethiopia. annagana oosha waxaan u soconaa oo u gurguurinaynaa meesha Ethiopia. marka meeshaas waa la iska arkay. marka waa fiicneed inaan la helinin muxuu ahaa la iska daayo, waayo waxaa la yidhaha mabuur ahaa aan buur ku tiirsanaa. bishii Juun ee 1977 waxaa Soomaaliya u soo hoyatay guul weyn, taasi oo ahayd in ciidamada qaranku ay dib u hantaan badi gobolka Soomaali galbeed kadib weerarro socday ilaa bishii Sebteembar ee sanadkaas. si kastaba arrintu ha ahaatee, bishii Maarso 1978 ayaa dowladda Itoobiya oo ay xaggeeda mareen dhammaan xulufadii hore ee Soomaaliya ayna horboodiyaan midowga Sofiyeeti, Kuuba
yamanta koonfureed iyo liibiya ay dib u soo riixeen ciidamada soomaalida dagaalkiina waa lagu jebiyey ciidanka soomaaliya waxay ku qaadatay dawladda maraykanka 1 sano iyo bar inay kaga soo jawaabaan codsi ay dawladda soomaaliya u jeedisay oo ahaa in gacan militari iyo mid dhaqaaleba la siiyo weliba goorta ay dawladda maraykanku bilowda inay keento gargaar ka dhaqaale iyo ka cunto iyo qayb yar oo saanad militari ah dalka soomaaliya waxa uu durba lugta la sii gelayey burbur dhaqaale iyo fawdo siyaasadeed sidaas darteedna waxaa bog cusub u furmay taariikhda siyaasadda kacaankii militariga iyo hogaamiyaheeda maxamed siyaad barre inkastoo haddana aan la dhihi karin taasi lama filaan ayay ku ahayd markii haddaba ciidamada Soomaaliya lagu soo jabiyay dagaalkii Soomaali galbeed xaalad cakiran ayaa soo wajahday dalka Soomaaliya iyo maamulkii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxaa cadayd in niyad jab weyn oo siyaasadeed uu ku soo wajahan yahay dawladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre wasiirkii gaashaandhigga ee dawladdaasi Maxamed Cali Samatar waxa uu ii sheegay in xilligaasi ay u cadayd in dhaawac weyn uu gaaray sumcaddii hogaamineed ee Maxamed Siyaad Barre dadka qaar waxay yiraahdaan haybadii dawladda Soomaaliya iyo tii hogaamineed ee madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre waxay dhamaatay dagaalkaas ka bacdi arintaas iyada ma qabtaa fikradaas dhamaatay ma qabo laakiin kulliba waa wiiqantay dagaalkaas wuxuu keenay weakness waxa arintaas ku raacay Axmed Suleymaan Dafle dawladdii jabta dagaal waxa loo yaqaan inay dawladdu baabado waa gartay markaanu sii taagnayn muddo aanu sii taagnayn horta raganimo ahayd raganimo aan la filayn bay ahayd Carter baa wuxuu ku yidhi ummad waxa tihiin buu yidhi Maxamed Siyaad wuxuu ku arkay markii uu dhintay Saadaad qabrigiisa oo la isugu yimid odayaashii Denmark adduunku yey ku kulmeen wuxuu yidhi waxa tahay buu yidhi ummad adag oo adkaysinkeedu oo aad u badan yahay baa tihiin waa gartay haybaduun ma ahay inaynu jabnaabay ahayd oo sidaa u dunnaabay ahayd laakiin maynu dumin muddaynu sii raaqraaqayn Axmed Suleymaan Cabdalla waxa uu ii sheegay arrin aan hadda ka hor la maqlin oo ahayd in dagaalkii Soomaali galbeed kadib markii la soo jabiyay ciidamada Soomaaliya uu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre shir isugu yeeray golihii sare ee siyaasadda oo ka koobnaa 5 xubnood uuna u sheegay inuu xukunka iskaga tegayo waa gartay marka ma ahayd waqtigaas markii dagaalkii laga soo laabtay ma kula ahayd inuu xukunka si nabada uga tago madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waa buu yiri waan ka tagaya anaga diidnay goormay ahayd markii laga soo noqday ee ciidamadii soo noqdeen yuu isugu ka yeeray guddiga siyaasadda isugu ka yeeray wuxuu yidhi anigu waan tagayaa waana inaan degaa aniga la eeganayaa buu yidhi aniga yaa la eeganayaa focusku anuu isaaray colaadda anay saaran tahay aniga idinka degaya dawladdii iyo qarankii wada marka intuu soo shiriyay golihii siyaasadda ayuu yidhi dagaalku waa laga soo laabtay aniga ayaa maaragtay bartilmaameed noqonaya waan ka tegaya Ismaaciil baad weydiin kartaa markaa guddiga siyaasaddu ka mid ahaa caynkaa meydin yidhi Samatar baad weydiin kartaa raggii kalaad weydiin kartaa ahaa guddiga siyaasadda inta nool kolay labadaas waa nool yihiin saddexdayadaa malaa ku nool lahay baan u malaynayaa waa gartay marka maxaad uga diideen waxaanu u diidnay waxba maanu wadi kareen waayo ummaddu weli isagay ka dambaysay isagaa figure headkoodii ahaa isagaa maxaan ku idhaahdaa mobilizing factorkoodii ahaa isagaa maxaan ku idhahaa ummaddu ay ku jahan jirtay annaga markaa waxaan noo qaadan lahay niman khaa'iniina oo odaygii maxaan ku idhaha riday ma yidhahdeen odaygaa isriday oo odaygaa maxaan ku idhahdaa annagu sidaas baan u garanay dabadeedna waa dib ama aynu wada dhacno oo iska dareer rabaan shaydaanka qabsanayaa qabsade ama nala joogo Axmed Suleymaan Cabdalla waxa uu markhaati ahaan u qabsaday labada xubnood ee kale ee ka tirsanaa golahaasi siyaasadda Maxamed Cali Samatar iyo Ismaaciil Cali Abakor ee xilliga nool Maxamed Cali Samatar oo ogolaaday inuu barnaamijkan ka qayb qaato ayaa ii xaqiijiyay arrintaasi waxay ahayd 78 ma sugno hadda bishii inay Febraayo ama Maarso ma qalmadeeyeen wuxuuna yiri haddii looga eego dhanka military
militariganaga waa fiicnaa waana guulaystay laakiin siyaasiyan ayaan arrinta ku fashalnay sidaa aawadeed marka siyaasadii anaa hogaaminayay waan ka tegayaa meesha. imise qofaa ahaydeen halkeebaa shirku ka dhacay maxaa lagu jawaabay markii uu sidaa yidhi? waxaan ku leeyahay horta qolada kale allah u naxariisto xuseen kulmiye iyo ismaaciil cali abukor iyo axmed saleebaan xamar bay kula shiray laakiin aniga asaga waxaan isku aragnay meel gudaha dalka ah maxaa yeelay markaas aniga hargeysaan joogay xamar ma joogin dabadeedna arrinta anuu ii soo jeediyey anna waa ka diiday saaxiibadayna waan gaarsiiyey ayagana sidoo kale ka diideen waxay yidhaaheen ama waa ka wada tegaynaa meesha ama waa wada joogaynaa. maxaad uga diideen markuu soo jeediyey talada maxaad uga diideen? dee macquul ma aheen asaga keliya responsaabila ma aha haddii wax ay khaldameen ama wax xumaadeen responsaabilitada waa la wada qabnay marka inuu victim u noqdo wax uusan keligiis lahayn ma habbooneen. balse cusmaan maxamed jeelle oo ka tirsanaa golihii sare ee kacaanka waxa uu ii sheegay in laga yaabo in tallaabadaasi aysan dhab ka ahayn maxamed siyaad barre. maya horta mugidaalka laga soo laabtay anu dagaalka mugiligelayay isbitaal baan ku jiray oo jalmal baan joogay xilmi baa meesha jiray beenaysaniga siyaasadda ayaa jiraan hadow iyagaa ku jiri ma ahan mana maclin runtigaanu lahay saaxiibkay maxamed siyaadna u malay mahayo haddii anigu isagu hubo in maya la dhihi doono bal iska dhigu ku yiri mooye laakiin nin niyad ahaan inuu ka dhigo soo jeedinayo kuma aqoonin mana anaan maalin iimana sheegin gobdhoon anaan ahayn. 9 bishii abriil 1978 oo ah hal bil uun kadib markii ciidamada Soomaalidu ay ka soo baxeen gobolka Soomaali galbeed ayaa qaar ka tirsan saraakiishii hogaaminaysa ciidanka Soomaalida ee dagaalka ka soo laabtay ay isku dayeen inay afgambi ku tuuraan dawladdii uu madaxda ka ahaa Maxamed Siyaad Barre. saraakiishaasi waxaa ka mid ahaa Korneel Xuseen Cirro iyo Korneel Cabdulaahi Yuusuf Axmed. saraakiishii afgambiga hogaaminaysay waxay ku guuldaraysteen inay hadafkooda ka dhaadhiciyaan badi saraakiishii sare ee wasaaradda gaashaandhigga iyo qaybaha xoogga dalka xukumayay. qorshaha afgambiguna wuxuu noqday mid ay goor horeba ka sii war hesho dawladda Soomaaliya waxaana lagu burburiyey muddo saacado yar gudahooda. waa markii ugu horreysay ee dadweynaha Soomaaliyeed ay arkaan taangiyo colaad darteed u dhex gurguuranaya bartamaha magaalada Muqdisho. maxamed abshir walde ayaa iiga sheekeeyey sidii uu ku fashilmay afgambigaasi. iyadoo inqilaabkii lagu tala jiro xagga jubbada sare hargeysa iyo muqdisho iyo beledweyne iyo dhuusamareeb iyo intaasoo dhan iyagoo isog ayaa nin la degdegay baa la yidhi ayaa gruub la degdegeen iyagoo ka baqay in Siyaad Barre uu ogaaday ama ogaan doono iyagoon kuwii kaleeto u sheegin oo kala tashan malaha isyiri aad baad isugu kalsantihiinoo waa qabanaysaan hadda waana tii lagu guuldaraystay lana burburiyey. madaxweyne maxamed siyaad barre ayaa saxaafadda caalamka u sheegay in 20 ka mid a saraakiisha afgambiga damacday lagu dilay dagaalka 34 kalena la dhaawacay. si kastaba ha ahaatee lumintii Soofiyeedka niyadjabkii ku dhacay ciidamada iyo iskudayga afgambi waxay sii xoogaysay ku qanacsanaan la'aanta shacabka Soomaalida ee siyaasadda gudaha iyo tan dibadda ee dawladda. ka hor intii aan Soomaaliya lagu soo jebin dagaalkii ka dhacay Soomaali galbeedba koox siyaasiyiin oo mucaarad ah ayaa ku shiray magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxayna hindiseen urur mucaarad ah oo ka soo horjeeda xukuumadda Maxamed Siyaad Barre markii ugu horreysay taariikhda ee xukunkaasi. maxamed abshir walde ayaa iiga warramaya sidii uu ku dhashay ururka Somali Salvation Front SSF. gruubkii waxay ahaayeen xasan cali mire iyo yuusuf cali haaruun ayaa waxaa u tegey haddana ciidankii saraakiil inqilaabkii ka baxsatay oo uu ka mid ahaa cabdulaahi yuusuf ayaa Nairobi tegey. shicir baa halkaa lagu qaatay waxaa lagu heshiiyey markaa in rasmi laga dhigo oo halkaa laga dhiso lagu biiro ururkii awalba kooxdu ay uga dhawaaqday Nairobi isagii laftiisii in la sii wado laakiin maadaama aan Nairobi si rasmiya looga dhawaaqi karin oo Kenyaanku ayan ogolayn waxaa lagama maarmaan noqotay in la tago meel la isku caddayn karo laguna shaqayn karo taasina waxay noqotay Ethiopia.
iyadoo la og yahay taariikhdii hore oo jirtay iyo iyadoo markaas dagaal aada u kharaar oo aada u xun laga soo baxay oo weli uu dhaawiciisii dan walbaba uu jiro ma ayan dhib yarayn go-aanka halkaa lagu aaday markii dambe oo Addis Ababa la tegay oo congress laga dhigay oo 78 bilihii ugu dambeeyey dad badan baa isugu yimid oo Soomaaliya yani waxaa loo arkayay urur qaran inuu noqdo oo gobol walba leh oo beel walbaba leh ayaa isugu yimid muxuu ahaa waa tii Mustafa Xaaji Nuur gudoomiyihii u horeeyay loo doortay Umar Sariin gudoomiye ku-xigeenkii uu ahaa xasan cali mire waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka Somali Salvation Front dhibaato keentay waxaa loo aasaasay in laga hortago nidaamka ka dhismay Soomaaliya waa doctor anu wasiir baa Maxamed Siyaad Barre iga dhigay waa ka warhaysaabay la tahay wasiirka tacliinta noqday laakiin waa diiday waxaan idhaahdaadan dastuur baan sameynay intayadii ministerada ahayd ku heshiinay waa u geynay waa keeni waayey saddex baan ku noqonay markii dambe inta diito ka tagtay markaan ka tagnayna waxaan u nimid rag naga soo horeeyay oo le war maxaynu sameynaayo maxaa la qabtaayo saasay ku timid waxaa la yidhi inta haddii aan wax tari karno dalka waa wanaagsanaan lahayd inaan samayno urur Soomaaliyeed oo aan qabiil lahayn oo ah mabdiciisu fiican yahay intaasun baan markii ku heshiinay horaantii sanadkii 1981 ayaa jabhaddii SSF ay isku beddeshay SSDF waxayna ahayd jabhad inta badan ku dhisan mabda ayna ku wada jireen siyaasiyiin ka soo jeeda beelo kala duwan oo Soomaali ah Maxamed Abshir Waldo ayaa iiga warramay sidii isbeddelkaasi ku yimid SSF markay ka bedelantay SSDF ay noqotay diidaas waxaa ku soo daray group hor leh oo muxuu ahaa iyagu hanti wadaag weliba shuuciya ayaa ku soo biiray SSDF oo uu hogaaminayay ninkii la oran jiray Cabdiraxmaan Caydiid qoladii Etoobiyaanka oo iyaguna shuuci ahaa iyo Ruushkii oo ka dambeeyey ama Easternkii ayaa ku khasbay SSDF in ereyga democratic la yiraahdo lagu daro marka sidaasay ku noqotay SSDF Somali Salvation Democratic Front siyaasiyiinta haddaba xilligaasi ku biiray ururka SSDF waxaa ka mid ahaa Maxamed Faarax Jimcaale anigu SSDF baan ku biiray siddeetanaadkii bilowgii bay ahayd hoomaan ka tegey waxaan aaday seminar Italiya lagu qabanayay meeshaasi aan aad dhib ku helay weliba exidkiisa aan dhib ku helay kabacdina Italiya ka tegey halkaasaan tegey SSDF baan ku biiray isla sanadkaasi waxaa la aasaasay jabhaddii labaad ee hubaysnayd waa jabhaddii Somali National Movement SNM Maxamed Xaashi Cilmi waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka SNM waxa keenay waxa dhacay dhibaatooyin fara badan baa dalkii ka dhacay kibir baa yimid waa tii loo heesi jiray guul wada siyaad iyo magacabihii garashada wax walba la gaadhay waxa badatay xadgudubkii baa batay kolkaasaa for instance kolka dadku Sacuudi Arabia iyo ka tago ay alaab qaataan berberaa lagagala wareegi jiro maraakiib lala wareegay baa jirtay dadkii baa la iska xiri jiray waa la leyn jiray kolkii dambe arrin qabiil yar dadban ayaa xukunkiiba muxuu ahaa ayuu u wareegay kolkaa waxa wixii la filayay kolkii hore loogu raxleeyay muxuu ahaa gacankiina Siyaad Barre markuu cusbaa ayaa isbedelay oo dabeetana wuxuu noqday wax muxuu ahaa cunsuri iyo dhibaato badan baa ayaa meesha jirtay kolkaa waxay noqotay dadkaygii kolkaa iskaga tegay dalka ee u shaqo tegay Sacuudiga iyo dhulka Carabta markaa iyana shaqooyin ka furaay waxay noqotay maxaad u shaqaysanaysaa xageed la tegay hadaad muxuu waxaad shaqaysato kolkaa taasaa keentay dhibaatooyinka dalka ka dhacay waxaanu ku bilownay shirar yaryar baanu qaadan jiray oo isugu imaan jiray guryo dabeetana tiiba cabashadun baa la isula yimid dabeetana halkii baa laga waday kolkaasay dabeetana waxay noqotay aynu xisbiba samaysano Sacuudigana kagamanaan dhawaaqi karayn oo ma ahayn meel xor waa muxuu ahaa arrimaha jabhadaha noocaasa kolkaa dabeetana England baanu kaga dhawaaqnay markii aan u diyaar garownay malaha muddo dhowr sanadooda wadnay ayaanu halkaa kaga dhawaaqnay dabayaaqadii 1989kiina waxaa aasaasmay laba jabhadood oo kale oo xoog leh oo kala ah
jabhaddii USC United Somali Congress iyo jabhadda Somali Patriotic Movement SPM. Cumar Xasan Gaalaguul waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii ururka USC. Professor Gaalaguul la yaqaana asaasii koowaad oo USC anaa keenay magaca anaa sameeyay instituutada anaa registrarey Roma ku registrarey ragna waa ila jireen laakiin waa un la soo batay markii dambe waqti oo dalka dib badan ku jiray waxaa loo asaasay yani marxaladda la marayo oo adag aawadeed dib badanaa jiray dalka xukunka kan oo dib badan oo khasaaro u geystay sida looga baxo ee loogu laabto yani looga baxo xukunka ninka kaliya oo dictatoraha aawadeed si yani loogu laabto demokrasiya aawadeeda loo sameeyay. waxaa haddaba jirta in la isku dayo in la mideeyo jabhadaha. Maxamed Faarax Jimcaale waxa uu ii sheegay in dhibaatooyinkii hor istaagay jabhadaha badankood inay noqdaan kuwo qaran ay ugu weyneyd qabyaaladda. waxaa adkaaday inay midoobaan waa adkaatay waxay noqotay inay laba jabhadood la ahaado oo laysu iman waayo afkaartii laisku keeni waayo si kasta oo loo dadaalay waa laisu keeni waayey. SNM runtii waxay ahayd marka urur xoogaa ka madax bannaan oo hub badan iyo taangayaal iyo hub waaweyn iyo bahaysan oo looga arkayn dawladda midista khatar u arkimayn laakiin waxaa dad gaar u degan oo meel banaankaa degan oo ismaamula oo urursan oo bay ahaayeen. SSDF waxay noqotay waa kala daadatay xoogaa la saaray midista xoog uu saaray wuxuu u saaray hub waaweyn oo asaga naftiisa baqatin gelinaya bay lahayd oo liibiya iyo laga helay. markaa waxay noqotay ciidan lagu wareegsan yahay xeraysan oo aan xor ahayn oo siduu rabo u dagaalamo sidoo kale u madax banaanayn dagaalkiisa ay noqotay ilaa waagi dambe raggii lagu laayay qaar lagu xabisay dhibaata laga qabsatay oo hubkii laga wareegay. Xasan Cali Mira waxa uu ii sheegay inay isku dayeen ururada in la isku soo dhaweeyo balse ururka SNM ay ku gacan sayreen. xiriir wanaagsan baan la lahayn ururka la yiraahdo USC iyo SSDF heshiis bay saxiixdeen inay mid ka noqdaan. waxaa naga diiday Siilaanyo oo London aan telefoon ugu dirnay. Siilaanyo London baan telefoon loogu diray nin baaba 150 waagaas joogay shilin ka bixiyay lacag annana ama hayn raggii ogaa qaar halka New York joogaa noo soo diray telefoon oo yiri anaga ninkiina qaan oo ka dhamaynayna keena waa noo soo noqdeen waxa yiri naga diid. Maxamed Xaashi Cilmi oo ka mid ahaa aasaasayaashii ururka SNM isagu waxa uu leeyahay arrintu qabyaalad way ka baxsanayd waxayna dhinacooda salka ku haysay inaysan talo siyaasadeed oo dambe la wadaagin hogaamiyayaasha iyo xisbiyada koonfurta Soomaaliya. waxa uu sheegay inay wada shaqayn la sameeyeen ururada qaarkood sida USC laakiin mar walba ay taxadar ka qabeen isbahaysi qoto dheer. horta kolkaa hore waxa jirtay SSDF oo Ethiopia iyagu nooga sii horeeyeen oo halkaas ay joogeen Cabdullaahi Yusuf Bawha muxuu ahaa gudoomiye USC beri dambe ayay soo baxday oo markii aakhir lixdkii markii maxayna siyaad barro taag dareeyay ayay asaasantay. kolka SSDF ta iyagu waxay doonayeen israacan isku darsano annaguna israac maanaan doonin SNM haddaanu nahay dabeecadaha qaarkood baanaan kula heshiisahayn. kolka annagu waxaan inaan cooperation samayno oo iskaashano baa taladayadu ahayd. Libyana waxay ku dadaashay in badan in la isku daro ay maalgeliso iyadu hubayso oo noqoto muxuu ahaa arrin xoog leh laakiin annaga Cabdullaahi Yusuf ayaanan kalsooni badan ku qabin wax ku darsadkiisa. waxa isagu kolka horta isagu wuxuu ninka da'daasa ilaa maanta inuu madax noqdo ilaa Soomaaliya uu galo muu miirsan. kolka tiyo uu ka sii da'yaraana waa ka sii daray oo caafimaad qabay. kolka waxay ahayd muxuu ahaa sidayadabana muxuu ahaa koonfur waanu ku khasaaray oo Soomaaliyadii la isku daray waxaan anagu tirsanaa oo dhaba inaan ku khasaaray. yani waxaan la qaadan karin ayaa loo sacrifice gareeyay markii hore way se garan waayeen oo Soomaali qaldaan baa jawaabtii noqotay. taasina niyadaanu ka hayno dad wax lagu darsan karo inayna meeshaas ahayn baanu garanayn. bartamihii 80meeyadii dawladda Soomaaliya waxay u soo ekaanaysay mid talooyin badan ay faraheeda ka baxayaan.
dhinaca kalena dowladda maxamed siyaad barre iyo mucaaradkuba waxay labada dhinacba ku guuldaraysteen inay wax wada hadal ah oo muuqda galaan siyaabo badan ayaa haddaba lagu macneeyaa sababta ay dowladda soomaaliya iyo jabhaduhu ugu guuldaraysteen inay ka wada xaajoodaan haadaantii uu waddanku ku sii socday axmed sulaymaan dafle ayaa iiga warbixiyey fikradda dhabta ah ee xukuumaddu qabtay iyo sida uu markaasi madaxweyne maxamed siyaad barre u arkayay jabhadaha gobonnimo doonna maahayna gobonnimo dumis bay ahaayeen jabhada ku sheeg jabhadi waa jabhaddii mabda ku dagaalanta waa jabhaddii xorriyaddeeda u dagaalan maaha jabhaddii xorriyaddeeda dumisa ee dalkeeda la dagaalan waa cid aanu la hadlin ma jirto cid diyaar u ahaydna ma jirin cid aanu la hadlin ninka suuqa maraya iyuu soo fadhiisan jiray miiska hortiisa kursiga hortiisa ah sogaramis oo ula hadli jiray odayaasha qabiilada odayaasha maxaan ku dhahay baaxmisterka niman hortiisa fadhiisan waa yaryahay oon waktigiisa la hadlin oo umuuraha dadka kala hadlin ama dagaaladii soconayay ama dhibaatadii maaragta waddanka ka jirta ma jiro wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladdaasina waxay ii sheegeen hadallo u dhow kuwa axmed sulaymaan dafle markii ay ka hadlayeen sababta ay xukuumaddu ugu guuldaraysatay inay la hadasho mucaaradka maxamed cali samatar iyo cabdi warsame isaaq ayaa iiga sheekeeyey mowqifkii dowladda maxaa maxamed siyaad barre ugu guuldaraystay jabhadihii soo baxay ee mucaaradka ay hubaysnaa inuu la heshiiyo ayagaan diyaar ahayn dad isqanciyey ayaga cabdallaahigan haddeer wuu isqanciyey maxamed siyaad marna maaragtay muxuu ahaa inuusan ay heshinayn ayuu maskaxda iska gashay marka qolooyinkan kale oo s n m t iyo ayagana haddee aragti kale ayaa maaragtay muxuu ahaa ayay hogaaminayay marka laba iskeenaysa oo fikirka annaga maaragtay waddanka midnimadiisii iyo wixii maaragtay hala dhowra ayaan leenahay ayagana maaragtay inay muxuaha waddankii kala gooyaanoo dawladdaasna maaragtay la rido ayaa maskaxdooda keliya maaragtay ku buuxda marka yani dad maaragtay diyaar u ah ma aheen siyaad barre ma isku daya inuu la heshiiyo inuu la xiriiro seed u qancinaysaa kuwa kula safar markaad tiraaho kuwan aan la heshiinaya aada la heshiisidee dariiqee kula heshiinaysaa yani jabhadaha waa lala hadlay waana lala hadli karay ma aha in laga aamusay totally in la ignoraal garay waa lala hadlay qaar hadalkii waana qaateen waana ogolaadeen waana doodina waxbay ka galeen qaarna waa diideenoo halkooday taagnaadeen marna ma ka wada hadasheen madaxweynaha xaaladda waddan ku socdo jabhadaha soo baxaya maxaan ku idhaha dagaalada socday waddanka iyo xaaladiisa iyo meesha ku dambayn kara marna ma ka wada hadasheen maya u kaaday yani waan isku dayday maaha inaan isku dayin inaan la heshin jabhadaha waa isku dayday waase suurooba weyday jabhadaha qaarna aad bay u fogaayeen yani kuwa hadda goostay oo kale qaarna xoogaa waa ka soo dhawaayeen intaasoo wada hadal iyo la wada xaajooda waa ogolaayeen dhinaca kalena jabhadaha laftigooda ayaan isku shuqlin inay iyagu dhinacooda wada hadal iyo xal raadiyaan si xataa ay guul diblomaasiyadeed ugu soo hoyato dagaalkooda hubaysan maxamed xaashi cilmi ayaa noo sheegay in jabhadda s n m aysan marna isku dayin inay wada hadal la gasho dowladdii maxamed siyaad barre imanka kolkaad hargeysa aan maanta joogo saddexda galabtii baa dadka la xirayn jiray iyo muxuu afartii iyo meelaha ayaa dadka la xirayn jiray dad kibrey bay ahayn waxay ugu dhoweyd kolkii heshiiska ay wada galeen dawladdii etoobiya halkuu annaga nagala bilaabi lahaa waxa weeyaan ayaa meel khalada uu ka bilaabay kolkaa guul bay tirsanayeen oo dabeetana waa kii dhulka soo maray halkan muxuu hargeysiya dhulka yimid kolkaa waxay u haysteen xaggooda dee afar un baanu ka haynin jirne oo la qabqabanayo waxa ka khaldan nimankan dictatorsku kolkay meel gaadhaan runba ma helaan dhinaca kalena maxamed abshir walde oo ka tirsanaa ururka s s d f ayaa ii sheegay in dowlado shisheeye oo ay ka mid yihiin maraykanka iyo talyaanigu ay isku dayeen inay wada hadashiyaan dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre iyo jabhadaha mucaaradka waa la isku dayey marar badan baa la isku dayey shisheeye iyo soomaaliba waa isku daydeen soomaali baa jirtay dhowr jeer ku talisay dhexdhexaadin carab baa iyaduna ku talisay dhexdhexaadin talyaani baa ku taliyey dhexdhexaadin xataa maraykanku 1982 anigii xasan cali mire
oo s d f ka socona iyo siyaad bare oo tegay america waxay ku taliyeen isma anaana rag isbuna ayan kaayo keenin halkaa laakiin waxay ku taliyeen in dialogue la furo iyaga oo doonaya kana walwalsan ruushku inuu dib ugu soo noqdo soomaaliya dagaalkii qaboobaa mar walbaba marna hadda siyaad baraa diidanaa intii hore oo dhan oo aada malaha isugu kalsamaa intii dambena waxaa diidanaa guddoomiyihii s s d f kaa diidanaa intaa keliya maahana hawlo kaleeto oo badan oo aan qabo in wax looga bedeli lahaa iyada oo aan sidii hadda wax u dhacayn ayan u dhicin si ka wanaagsan wax isu bedeli lahaayeen ayaa iyaguna jiray oo aan hirgelin taariikhyahanada soomaalidu waxay ka siman yihiin in dowladdii maxamed siyaad barre iyo jabhadaha labaduba aysan la imaanin fikrado lagu baajin karay dagaalkii iyo jihadii uu waddanku ku socday inkastoo ay jabhaduhu ka sinaayeen mabda'ii ahaa inay xukunka ka tuuraan maxamed siyaad barre haddana waxay markii dambe iyaga laftigoodu ay ka baxsan waayeen in dhaawac soo gaaro hadafka iyo halkudhegyada qaran ee ay sheegeen inay ku dagaalamayeen sida uu sharaxayo maxamed faarax jimcaale kolley inta heshiis lagu yahay qofkii aan qof wax u qarsana gaar wey laakiin wax heshiis lagu yahay dastuur buu lahaa program buu lahaa in dowladdan la bedelo laga diriro maamul wanaagsan iyo dimuqraadiyad iyo la soo celiyo oo barnaamijka noo qoran barnaamij noocaas ahaa laakiin hadda problemku waxa weye soomaali baan nahay oo dastuur kuma ekaano oo nin walba si unbuu u shaqaynaya ninba sibuu u shaqaynayay guuldarradan siyaasadeed iyo cududda mucaaradka oo sii kordhaysay waxay keentay in ciidamada jabhadaha hubaysan ay si badheedh ah u qaadaan guluf ay dhul kaga qabsanayaan ciidamada madaxweyne maxamed siyaad barre 27 bishii May 1988 jabhadda SNM oo markaas ugu cudud roonayd jabhadaha mucaaradka ayaa duulaan ku soo qaaday gobolada waqooyi galbeed iyo Togdheer oo ay taageerayaashoodu aad u degan yihiin wajigii hore ee dagaalka ciidamada SNM-tu waxay qabsadeen gobolka Togdheer badankiisa iyo gobolka waqooyi galbeed oo ay ku jirto badi magaalada Hargeysa ciidankii dawladdana waa la jiray xeryihii milatarigana waa la go'doomiyey waxaana dawladda Soomaaliya la soo diristay guuldarro weyn oo dhinaca ciidamada ah kumanaan kun oo qof oo isugu jira rayid ciidamadii dawladda iyo xubnihii jabhadda SNM ayaa ku dhintay dagaallo qaraar oo isdaba joog ah oo socday muddo 6 bilood ah dagaalku waxaa kaloo uu keenay kumanaan kun oo qof inay u qaxaan dalka Itoobiya kadib markii ay ciidanka dawladdu bilaabeen inay diyaaradaha dagaalka ku duqeeyaan goobaha rayidku degan yihiin jabhadda USC waxay bilowday inay magaalada Muqdisho si qarsoodi ah ugu soo daadgureeyaan ciidan hubaysan iyo xubno ka tirsan dhalinyaradooda dagaalanta ciidankaas iyo kuwa kale oo uga biiray magaalada Muqdisho waxay ku dhaqaaqeen fulinta amarada madaxdooda oo ahaa inay rabshado hubaysan oo dil iyo dhac ah u geystaan saraakiisha iyo taageerayaasha dawladda deganaansho la'aan iyo khalkhalna ka ridaan caasimadda ammaankii magaalada Muqdisho ayaa cirka isku shareeray maxamed cali samatar ayaa sharaxaya xaaladii jirtay xilligaasi dagaalka xamar inuu soo gaaro ka furmo lagu dagaalamo waa khalad waana muuqanaysay markuu gobolada marayay bay ahayd in tallaabo laga qaado calaa ayi xaal taas rag kale u taallaa aniga iima taalle waxa weeye wixii baa kala daatay xukunkii iyo cududii iyo awooddii ciidan ayaa yaraad markaana mucaaradkii waxay heleen jaanis galabnimadii maalintii axadda ee 30 Disembar 1990 ayaa si rasmi ah dagaal uga qarxay xaafadda Wardhiigley ee bartamaha caasimadda Muqdisho dagaalka oo mar kastaba la filayay ayaa ka bilowday saraakiil booliiska dawladda ah oo baabuurkii ay la socdeen ay ragga u dagaalamay jabhadda USC ku weerareen wadada tagta Villa Soomaaliya ee dhexmarta degmada Wardhiigley ilaalada madaxtooyada ayaa kadibna tacshiirad huwiyey goobtii uu shilku ka dhacay taasoo xariga ka jartay xiisadii foolanaysay 2 saac kadib markii ay rasaastu ka curatay magaalada Muqdisho ayaa idaacadaha caalamku ay soo xigteen afhayeenkii jabhadda USC ee magaalada Rome kaasi oo ku dhawaaqay in ururkoodu uu si rasmi ah u bilaabay dagaalka Muqdisho ka socda fiidnimadii 26 Janaayo 1991 iyadoo ururka SPM ay Muqdisho kaga soo siqayaan dhinaca koonfureed SNM-na ay qarka ula saaran tahay inay dul maraan ciidamadii aan cidina u maqnayn ee dawladda ayaa jabhadda USC ay xoogga weerarkeeda saareen sidii ay madaxweyne maxamed siyaad barre uga salkicin lahaayeen Villa Soomaaliya
taasoo noqonaysa guushii ugu weyneyd ee ay gaaraan muddadii 28 maalmood ah ee dagaalku uu ka socday magaalada muqdisho. galabnimadaasi ayaa laga itaal roonaaday ciidamadii dawladda, waxaana laga qabsaday xaruntii madaxtooyada. halkaasina waxaa ku soo afjarmay 21 sano oo madaxweyne maxamed siyaad barre uu ka talinayay Soomaaliya. labadii bishii Janaayo ee sanadkii 1995 ayaa madaxweyne maxamed siyaad barre uu ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria oo uu in muddo ahba magangali ahaan ugu noolaa tan iyo bishii Abriil 1992 markii ugu dambayn uu ka baxay Soomaaliya. dhowr maalmood kadib geeridiisiina waxaa lagu aasay magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo. markii ugu horreysay ayaa haddaba qaraabadiisa ay noo xaqiijiyeen xanuunka uu u dhintay madaxweyne maxamed siyaad barre, sida uu ii xaqiijiyey Axmed Sulaymaan Dafle. wuxuu dhintay maxaan ku idhaahdaa sonkor buu u dhintay, diabetic buu ahaa. diabetesku marka dambe u xumaado wadnaha iyo waa afektiraya iyo maxaan ku idhaahdaa kelyaha iyo waxaasoo dhan buu afektiraya, laakiin kelyo u dhintay iyo wadnuhu u dhintay midna laguma odhan. diabetic buu ahaa runtii. madaxweyne maxamed siyaad barre waxa uu ka tegey dhaxal midabo kala duwan leh, samaan iyo xumaanba. waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa madaxweynihii wakhtigii uu talinayey uu dalku aad u dhismay, ha ahaadeen adeegyo waxbarasho, warshado, waddooyin iyo mashaariic wax soo saaraba. balse taarikhyahanadu waxay isku raaceen in madaxweyne maxamed siyaad barre uusan isku shuqlin inuu dalka u diyaariyo marxalad uu ku sii deganaado siyaasad iyo dhaqaale ahaanba isaga kadib. waayo waxa uu dalka si silcis ah ku sii maamulayay 12 sano oo dheeraad ah laga bilaabo markii ay samaysmeen jabhadaha mucaaradka ee hubaysan. haddaba madaxweyne maxamed siyaad barre nin caynkee ah ayuu ahaa? waa su'aal xasaasi ah, Soomaaliduna ay maanta ku kala qaybsan tahay. laakiin bal aan hor dhigo raggii la soo shaqeeyey iyo kuwii ka soo horjeeday labadaba. waxaan ugu horraysiinayaa nin ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen, dalkana ka soo qabtay jagooyinka wasiirka gaashaandhigga iyo ra'iisul wasaare. waa maxamed cali samatar oo lagu tilmaamo inuu ahaa nin ay si aad ah isugu dhowaayeen madaxweyne maxamed siyaad barre. maxamed siyaad barre waa la wada yaqaan, shakhsi adag oo calool adeeg badan leh oo waxyaalaha qaar aanan u daciifin oo noocaas u ahaa. laakiin haddana sida dadka qaar ay ka dhigayaan cruel muusan aheeno waxyaalo badan oo hadda loo dhoobayo oo dusha looga tuurayo ma uusan lahayn. maxaa ka mid a? waxaa ka mida midda crueltada aan ku leeyahayba oo yacni cadaawad iyo xirmaan iyo reer buu maagaa oo qabiil hebel buu rabaa ama dabcaa in la baabi'iyo iyo waxaasoo dhan waa iska sheeko. ninka hadduu maamulka madax u yahay ma raadin karo dadku maamulayay ka mid ah in la baabi'iyo, waxaas macquulna maaha. musuq maasuq miyaa jiray? musuq maasuq miyuu ahaa isaga? ma malaynay, maya ma ahayn. arrimaha dhaqaalaha uu ka fogaa inuu maaragtay farageliyo. dad fara badan baa waxay yidhaahdaan oo siyaasiyiinta hadda u badan iyo dadka hadda siyaasadda oo daraso waxay dhahaan wax kasta oo maanta Soomaaliya ka qaldan waxa ka mas'uulahayd xukuumadda Siyaad Barre. taas jawaab khalada weeye. waana nin walbana uu garan karaa, nin walba uu garan karaa taas inayan soconaynin. dowladdii gacaanka hal isweydiiyo maxay qabatay, intay gaartay awooddeeda, maxaa dalka u qabsoomay intay xukunka haysay, maxaa ka dhismay dalka. dowladdaas kadibna maxaa soo baxay, hal isweydiiyo. marka xaqaa'iqa markaasa loo yimaado.
axmed sulaymaan cabdalla waxa uu isagu ku dooday in muddada dheer ee maxamed siyaad barre uu ku dheganaa xukunka ay ahayd waddan jacayl ee aysan ahayn xukun jacayl buugaagta iyo qoraalada la sameeyey xilligaa wixii ka dambeeyey iyo waxaa la yidhaha siyaad barre dictator buu ahaa 21 sano waddan ka teliyey xukun jacayl buu muddadaas uga talinayay soomaaliya ma ahayn waddan jacayl buu uga talinayay waddan jacayl yuu uga talinayay maxaa kalood iiga sheegi kartaa shakhsiyaddiisii waxaan kaaga sheegi karaa shakhsiyaddiisii nin naxariis badan buu ahaa oo ka ugu daran dadka ee isaga ka hor jeesta ee la dagaalama ee doonay inuu dilo saamaxa haddana taas haddaad dib u raacdo dadku saamaxi jiray waad ka heli kartaa yaa ka mid ahaa dad walba cid walba madaxdaa ka mid ahayd madax badan oo madaxdayadii ka mid ahayd oo ka hor timi oo la dagaalantay oo xumaysay yaa ka mid ahayd qaar ma iga xus kartaa rag badan ma xushadayo ninna kuma sheegayo ku odhan maayo hebel ku odhan maaye adigu raac bal recordkiio raggii la xidhxidhay ee maxaan ku idhaha bal dib u raac waa cumar carte maxaan ku idhaha raggii kale la xidhnaa adigu aniga hay sheegin waxa soo garamaysid hay hor ordin adigu yani waxaad helaysaa sanad walba dadka jeelka ku jira badankooda waa la saamaxi jiray marka October iyo soo galaan ciidaha iyo waadagay cusmaan maxamed jeelle waxa uu ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka xilal wasiirnimada uu ka soo qabtay dawladdaasi waxaa kaloo uu ku jiray saraakiil jagooyin sare ka soo qabtay dawladda madaxweyne maxamed siyaad barre oo 1982 xabsiga loo taxaabay xubnaha kale ee lala xidhayna waxaa ka mid ahaa ismaaciil cali abakar cumar carte qaalib cumar xaaji masalle maxamuud yuusuf weyrax warsame cali faarax iyo maxamed aadan sheekh waxaan weydiiyey cusmaan maxamed jeelle in maxamed siyaad barre uu mas-uul ka yahay wax kasta oo ka xumaaday soomaaliya wixii ka dambeeyey 1991 waa laga yaabaa dadku inay yidhaahiin maxamed siyaad ayuu daafacayaa laakiin anuun daafacayn ilaahay bulaanka lagu yidhaahday runta sheegaha buu yidhaahday oo yaani mataqaanaa inaad cadaalad samaysaan idinka fogeyn naceeb aada odagtahay naceebta waa aayada ulacmi marka waxaa weeye maxamed siyaad hadduu wax fiican oo la taliyo wada heli lahaay wuu hagaagi kari lahaa xukun jaceylku iska meesheedooda dadka udeed bay ka dhexaysaa mucangeg ma ahayn waa laga dhaadhici karay wax taas waxaa jirto maalin an aada dadka isu wadaweyn maxamed siyaad oo asagoo waxyaabaha aadkood cirkaa la madayo isan gacaha faaniyo waa miyaad waadatay markaad u sheegto cuda laakiin waa naga xagaajiyeen madaxmayna gaarsiiyeen ma wada ahayn nin mucangega laakiin waa la taliyayaal xumaa waxa weye dadku waa gafayaan maxamed siyaadna waxa weeye dee ninta oday soomaali buu ahay waa mataqaana aqoontiisana wuxuu ahaa iskanimo ka soo bilaabay sidaa ku dallacay oday soomaaliyu ahay waa la xumeeyey maahina sid ahaan ma xumayn laakiin mugii dambe meel fogbay la gaartay cabdi warsame isaaq waxa uu la soo shaqeeyey xukuumadda madaxweyne maxamed siyaad barre laga soo bilaabo 1969 markii uu talada qabtay maamulkaasi ilaa uu xukunka ka dhacay 1991 markii maamulkaasi xukunka laga tuurayna waxa uu cabdi warsame isaaq ku biiray kooxihii waddanka ku soo dagaalamay waxaana uu qabaa inaan mas-uuliyadda burburka soomaaliya dhammaanteed dhabarka loo saari karin madaxweyne maxamed siyaad barre maya waxaas ma jiraan waxaas ma jiraan haddeer waaad arkaysaa haddii oo dad soogalo wax u maaragtay noqonaya ay yihiin siyaad barre hadda waa tegay intaasana maaragtay la maraya hal meel ay isugu yimaadaan oo waxay ku hesheen oo ay fulaan lama arkin marka waxa weeye siyaad barre iska hadal bay dhinaca kalena madaxda ka tirsanay jabhadihii la soo dagaalamay xukuumadda madaxweyne maxamed siyaad barre mowqif aad u adag ayay ka qabaan shakhsiyaddii iyo xukunkii madaxweyne maxamed siyaad barre cumar xasan gaalaguul waxa uu ka tirsanaa ururka USC wuxuu ahay nin wakti dhif jiray dalka qabtay militar ahay militarkana aragtidiisa waa xadadan tahay waatana la yidhaahdo waa faras labada dhinacba aan u jeedin ee hortiisa kaliya arkaayo markii dambena hadee waa nin marka uu xoog yeesho oo meel qabsado yani waxay noqonaysaa
inuu wax la qabto ayaanta ugu horeyso oo bilaabayo wax alla waxay aadaanba oo yani nidaam ku sameeyo waxyaalaha sharci u dejiyo hore u qabto laakiin markii uu dego asi yani uu nagaado dawladiisana ay nagaato wuxuu noqonayaa nin ismahdiyey mowqifka ugu adag ee madaxda jabhaduhu ka istaageen maxamed siyaad barre waxa uu ahaa kan uu qaba ururka SNM oo colaadda ka dhacday dabayaaqadii 80-meeyadii gobollada waqooyi haatanna loo yaqaan Somaliland ay si weyn u saamaysay ururkaasi maxamed xaashi cilmi waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka SNM iminka haddaan ku soo qaado Somaliland Hargeysa magaalo walba duleedkeeda waxa ku aasan xabaalo waxa jira muxuu ahaa xabaalo waaweyn oo dadkii lagu xasuuqay ay ku aasan yihiin waa calaamad taala oo rag iyo dumar iyo caruur wax walba leh oo kulba daadku Hargeysa soo saaro waad ogay inuu jasiiro waa tii inta la qaaday dadka lagu ururiyay muxuu ahaa lagu laayay jasiira waa halkay ka bilaabantay baa halka ahayd dabeetana maanta magaalo reer Somaliland oo aan intan muxuu ahaa xulafada la ahayd maahe aan mass graves ku aasnayn maanta ma jiro kolka waxa weeyaan astaantaasaa meel walba u taalo raadkaasu ka tegay in siyaad bar kolka waxa weeyaan ninkaasi wuxuu ahaa shaytaan ilaahay ummad u soo diray buu ahaa kolka astaantiisa iyo xumaantiisa waxa la waxa maanta dhacay oo dhan dembigeeda isaga muxuu waa sunnihii uu dhigay weey waxaa fikrad aan taas ka fogeyn qaba maxamed abshir waldo oo ka tirsanaan jiray ururka SSDF wuxuu ahaa sarkaal dawlado gumaysigii la soo shaqaystay talyaani iyo ingiriisba wuxuu ahaa nin muujiya inuu isku kalsan yahay haddana ficilkiisa ayan ka muuqan inuu isku kalsan yahay wuxuu ahaa nin jecel dadka inuu tuso inuu yahay leader Soomaaliya oo Afrikaana oo progressive horusocda ha yeeshee muxuu ahaa askari ku cadaaday siyaasadiisii iyo taariikhdiisiina miraheedii waxaa laga arki karaa halka Soomaaliya ay maanta ku sugan tahay ma waxaad leedahay wax buu ku leeyahay waxa hadda taagan kuma laha keliya waxa weeye aas-aaskii dulistii Soomaaliyeed maamulkiisii bay ka dhalatay habxumada iyo dhaqan xumada iyo qabiilka iyo kala taga iyo kulli waxay raad ku leedahay oo aanu la dawoodi laanahay waxa weeye habkii uu wax u maamulay iyo taariikhdii uu nooga tegey iyo dhaqankii uu nooga tegey rag uu ka mid yahay xasan cali mire oo ka tirsanaa ururka SSDF waxay qabaan inaan eedda loo wada saari karin madaxweyne maxamed siyaad barre balse ay tahay inay la qaybsadaan raggii talada la hayay waddankana la maamulayay maxamed siyaad barre intii dad qabtay kama badna chance buu helay uu dadka xoog u qabsaday isagu ku qabsaday laakiin si darra haddii maxamed siyaad barre waayo aragnimo iyo aqoon midna dadka kama badin keligiis wax la eedeeyo ma aha eedda keligii ma leh waa lala wadaaga dadkii la shaqeeyaa la wadaaga dadkii ma aragtay oo aan qaban warkadaa saatan oran maxaa yeele wuxuu gaarsiiye meel uu isaga maaha nin kala hadli karin waddan maaha meelna laguma tago marka sideedaba qof keliya yaan la eedaynin inta kale oo waddanka joogta hal nin waa ka tashin kareen laakiin dadkii baan talo si loo qabsadaba ma naqaan dadka siday talo aynu u qabsano qaran ahaan ilaa hadeer ma aynan baran wada hadalka ma naqaan nin walba anuu reer hebel ka bilaabahaya wariya adigu reer hebel baa taa laleeyahay maba aha waddan baynu wadaagnaa iyo walaalaynu nahay iyo wardadweyneena la dhaafiye iyo waxaaba hadalku kuma jiro maxamed faarax jimcaale waxa uu aaminsan yahay in sida xukunkiisa oo kale madaxweyne maxamed siyaad barre ay shakhsiyadiisu isugu jirtay wanaag iyo xumaan labadaba wallahi anu waxaan isleeyahay waagaas waa kuu sheegayoo waxaa ii muuqday dictatorship nacab dictatorship baa igu jiray maskaxdayda ku jiray laakiin waxaa ii muuqday waxaan arkaa dhinacana nationalism weyn buu lahaa oo nin maaragtay isla weyn buu ahaayo Soomaali ah oo isla weyn oo iskala weyn wuxuu dhihi jiray warshadaha iyaga anagu aan la jabno oo la kufkufno oo qaladno oo wax naga xumaadeen intii aanu ajnabi keensan lahayn dhinaca positive buu ka ahaa dhinacana wuxuu ka ahaa inaan xukun jecel oo dictatora oo qofka aan aamini karin dadka maskaxda furan aan aamini karin hadda marka nooc isku jiro ah
jabhadda SNM waxay sannadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go'day dalka Soomaaliya intiisa kale inkastoo aysan weli helin ictiraaf caalami ah. dhinaca Puntlandna waxaa hogaamiyaashooda ay ku guulaysteen inay nabadda soo celiyaan maamul adagna samaystaan. haddaba dhulka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha ayaa weli dhibaatadu ka taagan tahay iyadoo ay ku dhowdahay 20 sano tan iyo intii uu xilka ka degay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. deegaanadaasina ay weli degila yihiin. Maxamed Faarax Jimcaale waxa uu isagu qabaa in madaxdii jabhaduhu ay wax badan qaban karayeen. waxa weeye markaan anigu jaanis haysto aan wax ka fiican haysto aan samayn karo oo aan samayn anoo oranay Maxamed Siyaad baa agshigeeyay iyo wax anigu aan sameeyay masuulka anaa sameeyay oo weyn oo jaanis la haystay dadna haystay shacbiyad haystay caqli lahaa wax wanaagsan la abuuri karay. marka ninkii yiraahdo wixii asagu uu sameeyay waa Maxamed Siyaad masuulka masawir buu noqonayaa. Maxamed Xaashi Cilmi waxa uu isagu aaminsan yahay in qorshaha kooxaha koonfurta uu marka horeba qaldanaa. waxa weeyaan annagu waxaanu ka bilownay geedka hoostiisa iyo shirar noo gaara oon cidina lacag nagu siinin hudheel weynna aanaan ku jirin oo geedka hoostiisa arrimihii lagu dhamaysto. kolkii aanu dalka soo galay horta kolka hore waanu ka dimuqraadsanay oo 3 sanadood ama 2 sanadoodba madaxda waanu dooran jiray annagu mid qudhiina ma haysan jirin. kolkaana waxa charterka ayaa ku qoraa 2 sanadood kolkaynu dalkii ku noqono markaynu hayno 2 sanadood aynu ku wareejino muxuu ahaa dadweynaha. kolkaas horta taasi waa meel aanu kaga duwanayn bay ahayd. ta labaad waxaanu kaga duwanayn oo kale waxaanu isugu yeedhnay wax la wixii reer Somaliland qabaa'ilkii deganaa ayaanu isugu yeedhnay madaxdoodii salaadiintoodii burcaanu shirkii ku qabanay. halaysa saamaxa baa la yidhi halaysa saamaxay dawlad loo dhan yahay baa la sameeyey oo laga wada qayb galay. dabeetana tii dambena booramaa lagu qabtay. kolka horta anagu saasay iyagu halkay ka bilaabayeen waxay ahayd ama Qaahira lagu shiraya ama Addis Ababa lagu shiraya ama waxa lagu shirayay muxuu ahaa meel dhul dibadda Nairobi. kolka dabeetana hudheelo waaweyn iyo loo barto kolka waxa la geli jiray campaign-ka intaan shirka kalaba la dhamayn campaign-ka yaa madax noqonaya ay ku tagi jireen meesha. kolkaas shirarkoodu uma qabsoomi jirin guul lagama gaari jirin waayo hadii jeer waxa ku jiray campaign madaxnimo oo dawladda mid doonayso oo Masar qaar doonayso oo Ethiopia qaar doonayso oo Talyaanigu qaar doonayaan qolada Mareykanku qaar doonayaan. kolkaas wuxuu meesha la isugu tagi jiray waxay ahayd in meel campaign cusub lagu galayay meel aynu heshiino oo aynu dawlad dhisno oo Soomaaliya ha lagu soo celiyo sideedii fikradiiba ma jirin. kolka hudheel weyn oo dalkana sanadkan halkee lagu shiraya ka damba la sii qorsheynaya muxuu kolka ilaa 11 waxay marayeen mooyaan ayay muxuu imkana dii wali ma badaynin. kolka waxay ahayd goor walba wax dibadda laga soo dhiso dawladda ajnabiga ku lagu leeyihiin bay ahayd. Xasan Cali Mire waxa uu leeyahay qaladka ka sokow Soomaalida waxa ilaa maanta ka maqan bisayl siyaasadeed. inagoo dhan baan bisayl lahayn bulsho ahaan baan Soomaali maanta ayanu ahayn beriga iska daayay. marka inaguna waxaan eeganaa reer hebel cudurka la yiraahdo ilaa uu ka baxo ilaa uu ka dhamaado Soomaalida ilaahay ka hanuunsho. anigu ma qabo inay dawlad dhisan karayaan. maxaa jira nin kala findicilaya dadkii wadanka lahaa inagoo la isku keendaray baa waxa la isku qabtaa 7 milyan ba ama 10 milyan ba. dunida intay la egtahay fiiri dadka bani aadanka oo nool oo shaqaysanaya intay tiro la egyihiin fiiri waxa inaga isu kaaya muujiyay oo odayo aan runtii taariikhna qoran lagu aqoonay afkaas wax laga bartay anigu waa yaabanahay shacbigan maxuu la wareersan yahay madax iyo aqoonyahan iyo jini walba aqoonyahanku dadku ka mid yahay bani aadan weey qabiilka cidi kagama baa iyaga laftooda. marka ummad sidaas ku tashatay ama aqligeedii dhaafi waayey waayeel iyo aqoonyahan iyo mid kasta meel la gaari mayso waa ayaan daro weey meel lagu gaari maayo in indhaha inta la furo dadku la furo loo dadaalo maalin walba laga hadlo waxa runta ah. Israel waa nimankii kaliya isku dayay markay kursi heleen bay iyagina ka baxeen waxay intii waagi joogtay madaxda noqoteen. intaasina dhagaystayaal waxaa ku eg barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aan ku eegaynay soo ifbixidii iyo dhicidii kacaankii 21 Oktoobar. haddii aad doonaysaan inaad fikraddiina ka dhiibataan waxaad noogu soo diri kartaan cinwaankayaga somali@voanews.com. waxaan si weyn ugu mahad celinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay barnaamijkan iyo intii iga saaciday soo saaristiisa.